السلام عليكم كسر دوادا يوتيوب channel لا فيسبوك channel كميديا جروب أنت حلت جوجنا قاسم أحمد أو ربنا إن كور رسالنا كنعسجة إيو حسمية إيو سوميشان وجوجو سوجاري قاسم صور دواو ما صنته قاسم بلاغو حرمنا إنا أوجانا هرت وحير history جاجي إيو وقت جا ودن كان إماتي إيو وحالسو كلنت سو من نوجب بلاغي كرتا قرما ودن كان إماتي إيو مجالدي دجنيد عادي أرتبط وما صنته ولا ما عادي صوب وقتين between the time season and محاني مد دنمارك 1995 كعمد and حكب لا ودن كليرا مجال ده قناص قناص أنا كبلاوي كون سقاط بوساج شنتي مركا أديك قناص مركا عندنا دور سنة كديب أنا ويلير بانها مركا حاجة أسكت قن الله مركا تينيجر ليه مركا حاجة يهيج نقوي ده marka guriga wiil walaalkay igu wanaada wadanka Mareykanka jira ayaa xogaa isku yara dhacnay marka waan guriga waan ka cararay anoo yar anigoo cagacad kaba wadanin jacket wadanin oo winter tahay ayaan maxaan ka soo degay dabaqa lixaad ayaan ka soo degay jaraanjarta soo raacay wiish maraan wax maraan soo dhaxanaaq aan qawdaraadid ma garata siya marka ku orday in la eg 1 kilometer oo kale ilaa 2 kilometer la eg cagacadaan ayadoo winter ah asxaabtii aan u tagay marka asxaabtii markaan u tagay marka waxaan dhahay guriga waan ka soo cararay walaalkay ha u sheegina hadda u kiin weydiiyo ma khajiraan ahayd waqtigaas 45 sano jiray marka waxa dhacday maxaa weeyaan walaalkay uga dayimid marka kan ku xanaaqsanaana ma aha mid kale uga dayimid jaakeedeedii kabahay uga daba keenay markuu wiilashu u dhiibay jaakeedeedii kabahay muxuu yiri walaalkay yar waan aqaanaa ma garatay jaakeediisa kabihiisa ma garatay marka saas sameeyay marka anigana yaastadii nin oo waligi yaraantay marka Soomaaliya joogay nin isku filan baan ahaa anoo 7 jir baan isku filan ahaa ma garatay marka anoo 4 jir maadan xogaa isla weynaaday qatar samooday moogta marka jaakeed markuu iga tagay baan anigana freedom baa si helay ba ma garatay freedom markaan si helay liisoo raadinin lila hadlin lila maxaa la yiraahdaa fahanling lila sameeynin ma garatay marka way la tagtay marka ila tagtay marka maxaa noqday wiilasha magaalada Qanas oo ugu dagaal badan dhibaatooyin inay sameeysaa bilowday maalintaay yaas gaaray subhanallah marka samsact teenager ahay magaalada Qanas magaalo weyn bay ahayd ma garatay marka magaalada marka xor baan noqday marka nin dhalinyaro xor ah marba mid la dagaalam magaalada gal 6 arin guri ku soo laabo ma garatay ninka la feertamis feertan ninka la heshiin karta la heshii ma garatay saas oo aha adiga maalmo maxaa ku dhacday marba meel baa seexan jiray marba meel seexan jiray marka ayaa maxaa dhacday guriga inaan ka soo baxay ama aan guri ku laabanaynin way igu adkaatay in dhalinyarada u sheego ma garatay dhalinyarada la degantahayna si guriyaasha intii ka keenaniyo maya dhalinyarada la deganaa dhalinyarada badan ma aha dhalinyarada dad saaxiibeyga guriga kala aadaan nin walba muxuu mar guriga la aadayo hadda sawiraan ka haya meelaha seexan jira ma garatay banaanka seexan jira maxaa seexan jiray meel magaalada meelaha basaska laga raaco agaarkooda ah oo masaajid Bosnian ku yaalay oo masaajid Bosnian marka laga casharadku laga gal tago ayaa dawmar jiray maxaa seexan jiray masaajidku xir jireen marka maxaa seexan jiray jaraanjarta hoosteed ma garatay jaraanjarta hoosteed seexan jiray marka qoob bay ugu haan jirtay marka maalin kamid amar gudahan galay marka ma garatay gudaha markaan galay nin maxaa imaad marka waardiyo dermo waata we have bacteria that control amnad marka waqtaha markuu yimid meesha control ku sameeyay tooshku ku ifiyay ana marka waan baqday cunug yar ahay waan ooyay marka qabowna dhinac uga haya sababta dhulka waa filiisa ma garatay qabow dhinac iga haya san u dhaxmoonayay oo ninkan igu dul wareegay ana ooynayo ninkuu baxay marka markuu baxay ninkii gariir iyo calool xumaa qabta marka ma taqaana markaad kalinimo dareemaysid dad la'aan dareemaysid wax la'aan dareemaysid cunto la'aan lacag la'aan marka habeenku waa iska sii lugay marka ma saxan iska sii lugayay meel xun oo adiga oo ayadana hunu la dhaw agteeda ah Qanas dadka yaqaana guri ku ayaa agteeda hadana aan galay habeenku meesha iska dhacay marka habeenku meesha iska seexday adiga sheekada saas u ahayd
marka maxaan bilaabay maalintii ragga la raaxaystaa ama la bulsheeyaa habeenkiina anigoo isgiijinaya ayaa meelaha qaarkood seexan jiray maalin waxaa ka dhacday marka wiil saaxiib aan oo Turki ah oo silkuba kubadda ciyaar jiray ayaa marka fahmay iska ooya marka waa Turki way guris ima geen karo ma garatay Soomaalida dhalinyarada asxaabteena ayaga tuulo degnaayeen Langon la dhaho marka wiilka waxaan dhahay ilinta taa ka tirtirayna walaal iska hoyada anaa meel isdibir marka asiis ku socotay sheekadan ku soo gaabiyo ayaa maxaa dhacday inaan go'aan gaaro dhalinyaro Bosnian ayaa marka gawaarida jabsan jireen ma garatay marka cunug yaraan ahay lacag ma haystay dad ma haysto wax ma haystay marka waan fiirsaday waxay sameyn jireen markaan fiirsaday ayaa maxaan bilaabay marka inaan ragga aan raaco ragga marka aan raacay waa taqaanaa nin yar rag ka weyn raaceen marka offside u galaya ma garatay ragga marka gawaarida marka inaan la jabsado oo maxaa la bilaabay raadiyaasha gaariga ku jira inaan lala baxo ma ogtahay tiya marka ragga marka maxaan weydiiyay maxaa lagu helaa waxaan lacag inta saas lagu helay waxa marka anoo calool ka calool xun ayaa raggii wixii dambiga aan la galay ruuxu waa dambi moogta waa qalad dambiga markaan la galay ayaa maxaa dhacday marka in aan isla habeenkii aniga soo baxnay oo alaabta nagu raran oo socda gaari saaranahay marka mid Bosnian baa gaari noo wada hadda uu dhintaa maqlay loo naxariistay gaari nagu wada marka waa yar marka ragga dhan ana ugu yar marka raggii xayawaanimada maxaa dhacday meel Viva Bay la dhaho oo qanas ku taalo oo tank station ku yaalo ayaa 4 ilaa 5 gaari oo maxaa taagnaa booliska maalintii ku horeysay way nasiib xumo orga waxaa bilaabatay maxaan dhahay niman yahow halaabanina ayar hor u socda marka nin yaraatay ku maqlaaya ayar u gudba ma gudbeeno markaas yuls bin soo laag yuls bin markuu ku soo leexday booliska ma maqlay marka aan sadoo kacaan marka sadoo kacaan soo socday marka qanas stage ma galeen stage marka gasbro da in ulbay hal meel bas laga galaa ma garata meel kale soo bixis ma leh ragii marka waa la sadoo kacay ragii waa kala carreen marka booliska maxay sameeyeen ragii ka daw carreen way qabteen aniga marka wallahi ilaa amarkii rag iska deganaa maskax leh maxaa dhahay maanta booliis weeyaan way wataan kama carri kartid meel saxatin ma haysto marka ani waxa sabtama mogday ragga feeraha wal orday nin wala guriga hoys aada mogday ani marka meel aada ma mogday maxaa dhahay qasim jaanis waa cunta ay leesaa meel saxad ay leesaa marka man aqoon wax la yiraahdo consultant ama social worker ma aqaan marka waxa dhacday waxa adiga wasgiiji ilaahay fiiriya nin walba ilaahay يعني إلهي وضب كفر مقتل إيه إنه غير أقون بنا هاي ويرى هاي نبقى إيه هستير ونح جوجا وضد قوي متجوجي ما قرده هوين كامر كواس كأمس رجع إيه معدن صدق جاي دهين جاري جو إجليين ركل ولا سوق بتاع إيجو رفض كم مقطع أو إيجو سوى حاجتين على سوى حرية قال أنا الوحرية مركب قال لي يا رقبو أنا الوحرية مركب أنا الوحرية مركب حد عضي ما حد عضي أروتي محي ماذا مركب نول محاويمت lawyer ما يفهم مجرم مشانه أما lawyer تي أما قف social جوا مرك أنا under age وانا مرك كبر consultant أي ماتي وتما قامنا ده مدح جذن لهيد مرك ورا قاسم أحمد نور متجوجا مركز إباك محل يا جب وهو تنا مسبوق ده قاعد جاهز مرك قب مركز سي قبلي وليجو ياري قال يرى إلى جلين هذا يقولك وان كحسنا يلا ما هالله ويسوق حسنا محا عنا سمحا عبسا جاك بول مركا مقدونس إجلس على شيء يسوي حسي إن يبدو إنه كروست كان محجر جل ده بدلا كروست لسه جاك جونسون هو البوتيك ده بلاهي بدلا يا توي الجرا صدقهم جاي هم توما إني بوتيك فكيب توي بكيب مسا توي دربنا صيب سنة ما شاء الله صف عم يوصل لبستي marka isoo labistay nin bay ugu yartay Kim la dhaho una garabti min contact person ya fikay colleague baals ما قجرات وقت يا under age يا سايست marka hada marka يعني rough life ugu soo gaabin marka colleague baals ali siiyay colleague baals marka siiyay start technical school qanas technical school aska bilaaway marka so liu to foster defa horta ina wax fahmaan raba marka okay adii familkaaga waa isku soo dhacdeen waa soo baxday qanas Soomaali ma deganeen miya way buuxeen هاي مركا community ما كل هادلين
masaajido Soomaali ma jirin miya meelo Soomaali leedahay ma lahayn may vi snakker jo om 1995 ja Somalia var lige tilkommet alle havde deres egne problemer forstår du af Soomaali raalhaw nin wal dhibtiis baa jirtay ma fahamtay marka waa wada cusbeen marka saas daraadeed qof caawin kara ma walaaba laakiin Soomaalidu waxa lagu yaqaan masaajidna ma jirin inagna ma jirin wax dhan ma jirin ma garatay marka saas daraad anigana inay yaro yani Soomaali wax imolo nin gaalooba ii haysteen ma fahamtay Soomaali familki aad isku dhacdeen waxa laga aaminay ina qof exactly so Soomaali waxa weeyaan self labud baan nahay waxa yani ma qiyaasna ma garatay maxaa dhici kara ma cunug yar weeyaan bal ma garatay ma yaqaanaan marka ma aqoon waaga marka qof self labud buu ahaa ma garatay hadda maanta life ku jirnaa dad badan yaqaan waa daawan doonaan been ma waagan ka hadlay marka maxay ahayd waa Soomaali isku kici jiray nin walba uu cusbaa ma garatay marka qabyaaladii la wada watay oo nin walba ayaga isku mashquulsanaa marka of course marka wax aniga dhinacayga soo eega ma jirin ba so qof Soomaali oo ku imaado ma lahayn oo dhahay wiilkan 15 ka jiro oo meel u seexda haysan oo wuxuu oo caawina dhahay ma leh may laakiin sababta maxaa ma taqaana maxaa dhici karta anigana wax iga dareemay ma leh saan ku sheegay jabkay waa qarsanayay يعني dadka jafay mogtahay ma u tagi jirin marka maanta was geejin jiray cunta la cuni jiray walba la cuni jiray kulliga la joogi jiray asxaabteeda sagaal wiil Soomaali la soo koray waan ku dhex jiri jiray wala xafideen jiray ma garatay intaan guri yeelan ka hor marka dhibteed wax dareemi jiray ma leh ma garatay hadda qarko adigana ma ogeen hadda meel seexatid aad haysanin iyo ina meel la taga jirtay maan ogeen marka gabadha marka ii timid oo iga soo saartay jeelka oo ila talisay ila hadashay oo consultant ii yeeshay oo guri i dajisay markan baan ogaaday moogtaa inaan ajir caawin oo la heli karo ma garatay marka haddana nin isla kartuwen baan ahaa walaaladayda iyo familkeyga inaan kala hadlo ma wareerinba yani waxa isleed waxa qarso sababta maya wadantooda ma aha yani ma garatay ani naftikeyga walaaladayda maxay haystaan nin cayaal suuqa ma garatay sababta isma wareysan laba dhinac iskama wareysan ma garatay aniga waxay antow iyo wax qof u weydiiyay ma laha anigana walaaladayda ma weydiinin ama waxa ama familkeyga wixii aniga iga haystaan dhinacayga ma faratay marka saas daraadeed marka waa qof ka warhayo male wala soo dhigalaa anna waa madax adka ma garatay hadda fiirisid kumuunayaasha iyo marka hadda fiirisid caruurta dhibaatooyinka badankood ka imaadaan waa caruurka waalidkood la imaan waxa keenay ama adeer ama abtiya keenay markaas la isku dhacay way ku kala tageen halkaas adi ma dareemi jirtay marka ina waalidka la nooleen may ma dareemi jirin laakiin aniga waxaan u muleynayaa yani teenager-nimada keentay ma garatay nin rag baan ahaa taekwondo wax la dhigan jiray ma garatay waa isla weynaa omdum school baa dhigan jiray ma garatay wadanka la qabsay luqadan aqaanay ma garatay yani cunug yar oo xogaa fufudaad baan noqday ma garatay marka hadda maan dib u fiiriyo yani qasab ma inaan guri ka soo cararo ma garatay laakiin maxaan ogaa inaan isku filan karo so markii dhibaatooyinka family ka dhex dhacdo labada gees buu qaldanaa karaan yani familkana way qaldanaa karaan dhalinyaradana way qaldanaa karaan sida hadda u fahmaaday adigana waxa ku qaldaneed ayakana waxay ku qaldanayeen yani family marka la dhahdo waa rag walaalada ma garatay wiilasha walaalada ma garatay ayagana ma wareysan ma wareysan yani anigana waxa waaye asdabiri kara iska yaa ma garatay min taekwondo ma gadan ma yani hooyaday ma walaalada ma gabdhaha ma waa ragga moogtahay ragna marka xogaa teenager soo gaaro uu shirki u saalayna Soomaaliya inta sax sheegay ma garatay wuxuu ismoodin rag yahay xogaa hadalka laga guraa lama tuso xoog moogtahay ama hadalku lama tuso tan kale oo hadda ka fahmeen waxa waa qofka markuu uu guriga laga soo bixiyo ama dhibaatooyin la kulmo wuxuu aadaa geeska criminalitydka yani inuu dad xun la socdo bilaaba inuu waxadu bilaaba waxa fahamsaneed ma ahayd marka yareed mase waqtiga la ku geey ma fahamsaneen horta ma fahamsaneen laakiin waxa keenay maxay ahayd matqaana gaajada ma garatay horta waxa la yiraahdo ninka ragga markuu yar yahay markuu gaajo hayso wax walba uu soo wax ku cuni karo ku cunaa marka aniga maxaa sameyn jiray haweenka mooyee wixii ka dambeeyay maxaa sameyn jiray gawaarida la riix maartay oo dadka adeeg ku soo qaataan ayaa raadsan jiray ma garatay gaariga marka raadsan 10 koron ku jiri jirtay ma garatay 10 koron intaan soo saaro ayaa maxaa aad jiray aldi marka aado xabad caaram xajoo jirto 5 koron xabad qulaad xajoo jirto 5 koron ma garatay labada maalinta ku noolaan jiray ma garatay marka dadna maxay doortaan la inaan criminality ku sii dhaxtagaan ma garatay marka aniga criminality xaga oo tuugnimada habeenka wax i galabsaday mooyee dib dambe uu nolosha kuma garan laakiin
laakiin nin kulul baa Soomaalidu wada kulul yihiin weekly aan dagaalan ma jirtaba ilaa nin weyn aan noqdo mooye teenager-nimadeeda weekly aan dagaalamin ma jirtaba laakiin criminality-ka xataa iyo qof rabo male inuu galayo dadka dana ku qasabto dadka qaarkood iyo okay markaas qanas teenager marka teenager-ka ku nooleed haye udinsa imaatay haye maxaa dhacay marka ما واحد داعي محاويان أنا قانص مركا حوجا عن هذا عن دجال كبدية هذا أنا نقضي رجع وجود دجال بدنا ما قولي بدنا أي هذا محد عادي إن محلي صار كمونه على أوس أوس اللي كاني أوس مركا اللي كاني مركا محا هيد أوس مركا اللي كاني أي محلي وحري مش عروت لأنه under age كا مش under age مركا اللي وحري أي مركا محن أركان لأنه ما أصحاب عن هاي ومش إلا دجنا أي مركا أدب أفضل إن وسعينيان ودجالميان توباك وحصل لقى دنبيي ما قرأته وقتي ها ما قرأته توباك وحصل لقى دنبيي مركي أنا جي مركي رجع دور جرس كل عني ما قرأته مركي دنبيي سومالي وين ما قرأته مركي إن حتى رجع مش كل كل عني برايفت أو كل عني ما قرأته ده كله قال أنا جا رجع نوع عن ميه مش على جرره ما قرأته أصحابتي مش دقنا قارن أدوجعلا ما قدرت لكن نبت كينس محمد قارن ودقالة من جيران أيقاس ديل جيرس أنا أقول لك وحلا دقالة ماله يا مركان عصبة هل ويل سكون عنا مويه كدي واحد دقالة ماله صدا نك دبعت هذا قالنا أقول لها لكن بأذا فهمي سي بأذا فهمي ها مركان نك أنا أتجي بيرجو جاها من بيرجو أنا أتجي محمد أديك سندا أنا نوالا ميه كمنا ميه ما قدرت وحنا يجي ما قدرت إيجا ربعنا ماشان دكا محمد ماشي قاص دكا سنه لو سنه 6 سنه جوغادني غير لهدا اديga sandani ya wax kasta qaato meesha iga raada muxuu dhahay hada school ku laawatid training aan ku laawatid waan ka raray meesha ma garatay hayaan dhahay wax kasta igu qor waa lagu qor waxyaalihi marka schoolka lagu qor schoolka marka lagu qor isla markii maxaa la raray meel naqing ina dito laba mar oo saddexdeeda waa oo meesha maxaa marka waa banium oo kale laakiin sidstand tahay ma garatay أربعة ولا لقوا منا ثلاثة لقوا بحنا أنت كل سكول كأشخاص كأسا سياق سكر مركا ماشي قبلها دقنا ولا دقنا وأصل كورنا إني ولا بسكوف لنا ما قرأته نولش ماشي كسي ودنا مركا سيانا كوين هذا سي مركا كوين هذا أتني وحكوين كجاري هذا نقرص أكسول أبتي يستعرض تكن سكول سم شما هذا يا أوقو ما أوقو أم منا ما مقطع يا طب أوجن أصلا إن أوسم كسول أبتي هذا أوس مركا كسول أبتي فلور إن أو عبارة سم شما مركز تلفا så fick jag min körkod då. Så började jag يعني aktiv ung man och delta i samfundet marka. Så jag lägger bilad mashallah noll så isbedesha marka. McDonald's ka soo shaqeeyay, Chama ka soo shaqeeyay Flea oo Leslie meel badan ka soo shaqeeyay group ka soo dhisay. McDonald's dana ka shaqeeyay. Hadana maxaan ka soo shaqeeyay Post Denmark, maxaan ka shaqeeyay GLS. Adu weliga reer shaqa ah marka. sidii marka ku koreede ma sha Allah reus ku noqday marka adiga udan sadihil anisto ya come to uns for 6 hours laakiin horta aaxirno tan ohus yani adoo waxa soo dhibaatooyin la soo kulantay oo baaniyim email lagu dajiyay wili waxa rabta inaad qof fiican noqotid oo shaqaysatid oo waxaada adiga maamulatid ma aragta saaxiibada kuwa wax kala rabay marka oo noloshaas la sii tagtay baaniyim kaas iyo dhibaatooyinkan way jiraan horta in dhalinyaro badan baa jiray oo yani nolosha la tagtay ma garatay rag fiican ahaa laakiin ilaahay amarkii ma garatay qof walba meeshi bi'adi ku nool noqday ma garatay nin walba ilaahay path buu u qoray mogta ya marka ma anaga ilaa marka bidama aan noqon ma garatay laakiin saas daraadeed marka waxa dhacaya maxaa weeyaan ragga waa kala kornay qaar waa fiicnaanay qaar waa xumaanay qaar waa dhinteen laakiin adi maxaa keenay ina markasta arabtid ina ilaa McDonald's ka soo shaqeeyaa tiri tuma noqotay maxaa keenay marka ina waxaas aad rabtid ان hadda waan ogahay some boxon laakiin waaga maan ogeyn waaga waxa daqiiqo qaafta maxaa lahaa on yani silstanimo ma gartay isku filan wiligeena waan lahaa illa Soomaaliya waagan yaraano tadawjir ajab sigaar baan ahaa diilin aan istoy sheeko kale wata ma garatay Soomaaliya sigaarka ku iimin jira anoo cunug yara qaxi ma garatay oo dagaalka sokeeyay marka weligii wax energy waa iga buuxay oo aan wax qabto ma garatay wax qabashadaas marka waxa ku dhalatay miya mas wax waalidka kuwa abuureen miya maxay tahay horta waxa waalidka igu abuureen xagga indhaha ahaan agar aragti wajirta abay farmashiyo lahan jiray doctorka xanaanda xoolahan uu ahaa noloshiisa horan police buu ahaa military police ma garatay marka laakiin inta abi ana ka xasuusto abada weyn igu dhalay
marka farmashiyo yar uu lahaa dadka buu daaweyn jiray oo duri jiray oo Soomaaliya taqaana farmashiyo waa isbitaal oo kale marka waxaa laga yaabaa in kusoo koray beeraha abay falan jiray waa raac jiray beerta waa la fali jiray ma garatay yaanba wax la dhaw beerta lagu qadaa jirta ana mid yar uu sameeyay wada uu kici jiray ma garatay so aabbaha ku soo barayo ina exactly marka maxaan u maleynayaa waan weligay waan ku koray reer shaqo ma garatay reer shaqeysta mid kana Afrika wala shaqeysan jiray sababta waa lagu qasbay in la shaqeysto ma garatay sababta ma jirto sigisnet ad dib ugu soo dhici kartid wax walba inaad isdibirtaa ma garatay marka Aarhus waa ka soo tagtay marka Odense imaatay mase waxa ku xiga Aarhus maya Aarhus markaan aan nin weyn noqday aan isku filnaaday Aarhus marka shaqada tumaha sii waday ma garatay maxaa shaqeyn jiray Monday ila Tuesday Friday Saturday Sunday fasax aan jiray ma garatay maxaa jiray onbi guri ka soo dhisi jirnay oo weekend la maqnaan jirnay oo soo hoyn jirnay lacag fiican la qaadan jiray marka 17 ila 18 oo corona qaadan jiray 18 years aan jiray ma garatay lees meel la dhan waa tagi jiray hiil Somahuus aan dhisi jiray ma garatay oo ayadana lacag fiican lagu siin jiray hatta wiil saaxiibkay aan shaqaaleysiiyay oo kale ila shaqeysan ma garatay sheefkayga uu sheegay gaari uu siiyay ma garatay waa isku filan leeso inta leeso aan tago hal doona gashay hal doona ka soo baxay leeso maxay ku taala New Zealand ayaan marka xagga iska joogi jiray week ila week ma garatay anoo cambi boon yar iska haysta meesha ama hud aan seexan jiray oo shaqada iska wadan jiray marka saas daraadeed markaan aan tuma waxa aan ka daalay ayaan maxaan galay maxaa ka horeysay meesha caruurta markaan ka guuray oo nin isku filan noqday ayaa kuwa kamuunaha ii yimaadeen oo ay dhahan wiilkan buu tahay oo aan qasmin qolo model fa Soomaaliya yani Soomaaliya daata sasam oo kale af Soomaaliga ilan dhalinyaro Soomaali oo isku filnaato oo kale qof ay ku daydaan oo kale ay rabnaa in ka dhigano ma garatay saas daraadeed marka waxaan rabnaa in project aan bilaawno oo magac u bixino projectka marka waan bilaawna adiga ugu bixinay income 4 milyan ka soo qaadnay naagta la dhaho Louis Gad oo waaga boomster ka ahayd magaalada Aarhus projectka ka shaqeynay marka projectka waa ku qanci waaye aniga iyo wiil kale maxaa laga dhigay leader laga dhigay wiil Arab aha team leader wax la dhaho maxayna siiyeen jaakado iyo telefoon iyo lacagna waa qaadan jirnay yar ma garatay marka waan yasay wixii shaqada marka safar badan aan la geeyay ma garatay wixii waan yasay marka waxaan u yasay maxaa weeyaan wax sheeka cayaalnimo ila noqoto ma garatay aniga wiil yar ahay laakiin waxa soo haystaa nin weyn ma garatay aniga waxa ilmo maan ahay markii jaakad yar la xirayo oo lil isiina telefoon shaqal isiina oo meelaha wareegayo waagas Odense ka bilaawanta u bixiyeen ma garatay Sweden waa ka bilaawrnay Sweden waa tagmeel kasta tagnay meel kasta waa tagi jirnay ka soo sheegin jirnay marka adiga baash way fiicnaatay ilaa hadda socota laakiin aniga toog ma tibay McDonald's shaqa ka raadsaday McDonald's marka ka shaqeynaa oo meelahaas ama taqay oo ka kuusk McDonald's Tilst aan ka soo shaqeeyay marka hadana Hornberg ku laabtay Hornberg hadana waa ka daalay geelas aan galay marka geelas marka waxaan noqday abl Celestine dan firstly ma Celestine waa geelas markaan galay marka maxaa ku horta ganacsigan iyo qofka inuu kaligiis shirkad furto iyo goorma ku fikirtay ma geelaskaas wax iska imaaday ahayd mase wax aad ka soo fikirtay ana ku sheegay wax ka soo fikir maaha saan ku sheegay oo kale way fiicanta in tahay nin dhalinyaro oo mar walba karti leh oo gaajo haysa oo mar walba oo wax dheeraad raba ma garatay alxamdulillah iimaanka nagu sugo laakiin wax walba la heli karaa ma garatay laakiin way fiican tahay wiliga inaan su'aal isweydiisid ma garatay waxaan waa maalin kamid ah way daawan doonaan wiil mawlid la dhaho oo maanta koonay degan iyo wiil qorx la dhaho oos degan ay bazaarka ayagoo fadhiyaan ay maxay ka sheekeysanayeen wari aan 20 kun ay soo dhacday ma ana wala intaan ay soo dhacday insha Allah tan ay soo dhacday warin waxaan dhahay waan maqlay maxay ka hadlayaan ma garatay 20 kun ay soo dhacday ma dhici karto oo ku laabtay waxaan dhahay barnaamij la hadli karaa markaas haa la hadli kartaa su'aal aan weydiina inta ka shaqeysiin waxaan dhahay maxaa ka shaqeynaa geelas ma la dhaho ma garatay okay geelas maxay tahay general logistics system waa la dhahaa oo baakadaha meelaha geesa si post Denmark oo kale wow aan dhahay ma sha Allah haye maxaan qabanaa marka route lagu barayaa route lagu baro ayaa baakadaha geenaysa ma gaari la idibaya route wax geenaya ha easy one no problem soo lagu helaa marka shaqo ma baahan ha ina keen marka waan raacay dhalinyaro marka raacay mid laba goor laba maal saddex ma afar ma raacay ninka meesha la marka John ala dhaha marka dil yar ah marka iga helay
wiilka yara firfircoon u dhahay shaqaarta ah saarta ah wuxuu dhahay hadda quuro ma hayay laakiin raggan meesha ka shaqeey mid kamid raac marka adi nin raac Danish ah ninka Danishka marka uu raacay shaqadu joojin raba marka ma garata ninka Danish uu raacay shaqadu waan ka helay marka tu sotia pagana tu baakada waa kala haweenaysaa waa kala raseesanaysaa waxa ka sinaysaa gaarigaaga quuraha wadata waa soo dhigaysaa baakada ka horeysa soo diyaarsatay ya kafeega ma saaraysaa gaarigaada wadata 20,000 ya maxaa marbaba caadi ma waa isawir mid marka ching ching waxa walaal lacag macaan walaal oo fudud marka waan jeclaa shaqadii ninkii aan la hadlay Johnny al dijla walana wuxuu wiil yar aan baato yiri shaqadan waan joojinaa yiri waqti dhow quurahan oo bihoy la dhaw dhahay ku dhignow oo boy marka dhowr marka u raac waa xafiday wado walba dhag si baakada la korsay waa xafiday ninka markuu tagay shaqada qabsaday shaqada ay macnaata bro dhagaa gashanaysaa ama muusiga iska dheeranaysaa wata did baakada geesa did wadadka ka helayba sababta wiil dhalinyaro tahay fi fircoon ma garatay ragga shaqada jooga dhan waa rag xogaa aniga roona ma garatay marka dadka dhan iga helay marka aan shaqada marka waa ka helay dimaas social aniga waliga social ah marka ya dadkii aniga marka maxaan la qabsaday wakiil is self-stand tahay gaariga adaa wato chefka adaa hadlay ma leh in order ku siinaa ma leh nin ku qaylina ma leh aniga noocaas jeclaa ma garatay laakiin shaqada ma adkeen dad badan dhahay GLS-ka shaqada way adag waa kan doonta ana ku sheegay waa kan doonta laakiin aan wili yara oo firfircoon oo yani oo wili ma loo gaarin loo gaarin marka ragga dhawr iyo wax kasta ka sheeganaa mogtaa ana marka wax ma dhag ya 20 jir ismaadiya marka waxa dhacaysa maxaa waaye baakadii markaan la qabsaday gaari kala kirastay quuraan yeeshay mogtaa quur labada faar noqot ana iibsaday marka quuri kala la wareegay laba gaari laba gaari marka watay adi heer maxaa gaari bishii isoo gasho 90,000 oo koron ma garatay wiil dhalinyaro Soomaali 20 jir 90,000 soo gashay gaari Audi soo qaatay F4 wallahi baan ku sheegay xogaa lacag dhigtay 240,000 iyo ka badan ay taala adii wiilkii markaan arkay lacagta si koreyso anigoo yar oo gaari wato oo guri leh wax walba leh ما شاء الله مقاعد يشتغل هاي لو قاري ايش غير هذا ما شاء الله نولش مربع عادي ما يا نولش مربع عادي ما والله بك مش يا برو نولش وان جعل هذا وان جعل هذا marka jaad sa u shaqeyn jiray maxay ku dhacday waan guursaday markaan guursaday aan guursaday shaqada aan sii waday marka guurkeygii waa iga xumaaday ma garatay guurkii oo lid u tufqays marka waxa dhacay maxaan yablo u tufqays ma aabaa xogaa ma garatay shaqadiina nijab ay ku dhacday marka wiil saaxiibkan u yeer marka wiil saaxiibka Klaus la dhaho oo Danish ah oo u yeer oo mashka wada shaqeeyno way imaaday waxaan ku dhahay Klaus niyo ya filmaad stress oo depression ya iklust aabaa bas ka gaadhay hada ba filoro maxaa walaal macaan hooyaday iyo walaaladay iyo dad kalba dhan maxay iga filaan meel soo saaro ma garatay dadka ila dhashana oo Afrika joogana maxay iga sugayaan biil wax walba waxaan ku shaawiyo Qaasim fikirkan dhageystaya waa muhiim ay tahay wuxuu dhahay Qaasim hadii depression stress ku ridid oo xanuunsatid isbitaalka lagu dhigo ya caawinayo yiri dadka walaalahaaga iyo ehelka sheegaysid oo Afrika lacag u dirtid ya biil yiri wad ka waalatay ama ka xanuunsatay ya biil ayaga marka ya laakiin maanta hadda joojiso shaqadan oo nasatid ama shaqo kale ku farxsan agashid ya waliga waa si biil kartaa yiri waa nin gaal ogow fikir macaan noqday maxaa sameeyay marka wiga weynaa mogtaa hada hay Qaasim John hadda waa yiri gaariga soo doona dhex ma garat John ka wacay John ma hada shaqada joojinaya gaariga waa ku keenaa marka soo doona ma dhex ma garat gaariga baaka ka buux ma garat xasaas sameeyay yiri gaari kala ku soo diraya baakada gaari kala lagu gure gaarigana keeno dhaabis gaarigan geeyo shaqo saas ku joojiyay shaqada marka saas ku joojiyay guurkiina iga halaabay ma garatay ayaa maxaan sameeyay marka rag geelis shaqeyn jiray marka aniga maxaan ahaa yawa huwari marka qaarkood soo wacan jiray maxay siin jireen maalinta 1,000 koron ama 2,000 koron ay siin jireen saan u caawiyo ma garatay tii xogaa kuna noolaa marka marka ya Hamid gabadh hadan qabaan aan barta marka gabadh hadan qabo marka barta ilaa qeyrasiyo ma sha Allah gabadhi marka si fiican u safaanay gabadh maxay noqotay oo
ilaahay dadka gabdhaha uu kala dugay ma garatay soo rag ilaahay kala dugay gabdhaha uu kala dugay marka gabadha maxay noqotay gabar arkaysa meesha u socdo ma garatay visionkeyga ay aragtaa marka visionkeyga gabadha markay fahamtay meesha kasta u socday ay fahamtay ayaan gabadha marka aan ku soo doonan ma garatay gabadha marka maasha Allah aan guursaday gabadha markaan guursaday marka insha Allah de wax walba aan niyad ugu jiray aan kala hadlay intaan guursan ka hor ma garatay intaas guursan ka hor ayaan fiirsanay ka wada shirnay horumarkaan rabo isbeddelkaan rabo ka wada hadalnay markana waa noloshu waa muhiim inaad ka adag tahay yani laf dhabartaada iyo adiga inaad wax ku heshiisaan nolosha u wada qaybsan lahaydeen laf dhabarta markaa leeyahay maxaa bowman waa ma garatay xaaska guri ku joogta adiga waa inaan wada shaqeysaan aad ogtiin meesha u socotaan haddii kale xagaagaya male gabadha marka adiga waxaan ka wada tashanay way igu taageertay maasha Allah ma garatay marka igu taageertay marka nolosha hadana star for again all over ما قرته دافع يعني ان سبندي ودكم تسباب افتح ها دي markaas waa marka aroostay odansa u soo guurtay odansa marka u soo guurtay maxaa islahayd marka shaqo caadi ah raadsanay ma islahayd dukaana furanay ma islahayd maxaa ka fikiraysa waqtigaas waxa dhacay horta maxaa weeyaan gabadha markaan guursaday ayaa maxaa ka shaqeyn jiray Post Denmark ما قرت انت اذن سامس اوس ما قرت قبل مركا غورس اوس غورنا ما قرت اوس مركان دغاي ايا مركا ما ka shaqeyn jiray Post Denmark Post Denmark ana ku shaqeynaya ayaa cunugay kood ii dhashay ma sha Allah cunug kood markuu ii dhashay ayaa marka maxaa dhacday cunugay kood intuu dhashay intuu dhalay ka hor ayaa aniga maal kimid ah oo geelis awliso ah oo jooga masaajidka centerka ayaa oday Soomaali ah ما أنا صار كني كهاد صورنا كقصة قاعدة صوت أنا كوني كنورش بدلوان هذا الصومالي يقول يري مركب بحال سكوا ورسنا صوته ما تقولي الجميع واحد صار يهلا ما قرته محود هاي أذر محود هذا الصومالي ما هيجري حتى تمجرنا فرن لعنه يجري وعرفت إنه عن هذا ساعة ما حكي أنا عنده هاي مركز سيرلين كقمر بقف قال له مسينا يا هذا كاس مركز أوسم كسر أركي فإن أوسم صورنا كسر قاعدة هذا مركز Post Denmark كشقين يصيدو ما بس ده ما دمنتها جالس حقا كشقيال أو ليسا أوكي ما قرأته قبلنا نوان قبا ولا إلما إما دل نيو جيفت هاي هذا مركو حكويري هذا مركو أنا جو مركو باوسو كقبصنا يا مساجك أيوة مركو إيش هيك دبعت لا لا تيم الشركة تيم الشركة أوس إلا عرفت الصومالي عن هذا أي حشمينين أو لينك هذا سأقول لي أقلينين ما قرأته ساس درادة مركو محد عدي واقع قيرو ذا هذا حماده ما قرأته Soomaalinimada aan aad ay ugu dheertahay ma garatay marka waa ka xumaaday qof Soomaali ah da'da maanta ila leenka saas lagu xumeeyo waana ka fikiray it gives sense marka maxaa waaye nolosha maxaa la dhahaa meesha dhibaatada taala hadda solution u keentid waa new idea ma fahanteen waa new idea ugu dalta marka isla habeenka waa cararay baa hoosan tagay maxaa soo gatay color iyo xaqin iyo wax walba oo kala lagu hagaajin karo baqaabka marka wuxuu ku fiican dadka baqaabka deganaa yaqaana Bensby hadda waa la dumiye hoosteeda marka قل وين waa marka xafiiska uu ka weyn yahay ma garto oo nadiif ah waa dirishad la wax walba albaab la waa ma garata marka kala caad uma eko qolkan hagaajiyay aan nadiifiyay aan kala reeyay karguska maxaa jiri jiray TV la dhigay white screen la dhigay ya flash kan soo bixin karo waa white screen la dhigay aan soo gatay PlayStation soo gatay muraayad soo gaday kursi soo gaday machine soo gaday meesha dhigay dhalinyarada kaalay marka oo jiray ما قرأته PlayStation أو صدق بحكت أو صدق ما حد صدق مش وشد متمرك دنيرس أجرا ما حد قرأت اللي يقص بكتة كران قاعدة كتة كران قاعدة سواء كسمينة سفرية كسمينة بلا فرية كسمينة صوتها ما أقان وحن أو سببتها فري وسمينة صوت فري وسمينة محوى يرجع ولا عناديو أيام روح العابيو ما قرأته عرفت ذاك أو عناديسو أو نوس كأي كنا غلسية لكن عرفت حن أو جات تمجراه أو صومال وبوتين تدكودي هرمرنا تدكودي هرمرنا marka ka xanaaqa saas daraad marka u furo mogtahay marka furo dhalinyarada free aan ka dhigay marka bartana dhalinyarada ugu dhahayn barniyo lacag ka dhig kodsaan ka dhigay kod marka kadib anoo si u shaqeynayo ayaa Masjid Bilal watqana soo Masjid Bilal meel la dhaho oo odayash magaalada kamid afurteen ayaa igu yiri qaasimo soo qad bahalkan inta ku wadid soo dhiga masaajidka ma garatay timajara masaajid ka dhig ma garatay تمشي مساك كدك أوكي أنا شغلي ولا وطا ما مركب Post Denmark هذا كشقينا مركب يا Post Denmark كشقينا يا حاسك أورا إلا ذا هاي محول تمجراك على كشقيس أنت كفر مال وين يسي سبيس وين أو مساجد كا ماشي كحاجة جي أنفري مركب فري
geeska kale maxaan ka dhigay qol weyn magsaan oo kale half maxaan ka dhigay meel computer lagu isticmaalo Counter Strike lagu ciyaaro 8 xab computer la soo dhigay internet ma jiro dhaxdan maxaan ka dhigay xafiis yar oo qofka xawlaad ku isticmaalaya ama wax ku isticmaalaya soo isticmaalo ma garatay oo fikrad fiican way bilaawtay ma jirto laakiin waxa raba ina ogaado marka waxa sameynaysid maskaxdaada maxaa ka dhaadhacsan ina ganacsado tahay ma ka dhaadhacsan mase qof meelaya le furfurta isku maleesa maya horta kow ganacsadina aan igama dhaadhacsana marka yaani baagsiraha igama dhaadhacsana ma ka dhaadhacsan ma iga dhaadhacsan waxa iga dhaadhacsan ila Soomaalida caawinayo ma garat ila shaqo waan haystaa full time shaqo haystaa ma garat oo waliba igama dhaadhacsan waxaan ila tahay wax fiican inaan soo wado ma ogi ma garat mid kalena yaani waxaan waan la dhuumanaya ma garat Soomaalida qabiilo baa leenahay qabiiladana marka shaqooyin qaar kood ka fantamaan ma garatay marka aniga waliba timajarnimada aad uga faanaan si aan qabiilka ka dhashay waa isku dilaa benma masha kibaad hadda timajar alido way tooganayaan marka saas daradeed marka wixii anoo qarsanaya ayaa lacaga sameynaysa anoo qarsanaya wixii ayaa waxa dhacday dadkii marka way jeclaadeen masha Allah wiil fircoon waxaan loo baahan noo keenay computerada noo dhigay caruurtu nagala saaxiibay caruurtu soo xareeyay ma gartay wadaadadii iga heleen dadkii iga heleen wiil dhalinyaro waa mogtaa qulubta ay dhismata marka qulubta marka ay dhismata saas aniga boss der ma ka shaqeynayo ayaa maxaa ii dhashay wiilkayga Axmed wiilka Axmed markuu ii dhashay habeenkii koowaad dagaal gali gaarabo rag carab ayaa guriga wax ka xaday gadaashiisa seef maxaa haystaa marka samuqaa intaas leeg ولا شيء صوبت ما حد يقول ولا صداع يقول ولا صداع يقول ولا صداع الصوت توصل مرك ما حكون مقنن واتقنا فرن يعني اسبال قوم مقنن انه يقول لا انت لم تبروح وسو جيدا لايف تاع قبل انت تالو علمي هذيك مرك عنق دن انت كوحينيسا ما قرت لايف مرك مقتا وان imaado lii push maxaa maqlayaa walaashay martay mash fadhiya guru marka balkoonka waa marka ana maxaa digna stoon baqaba balkoonka ma laga soo gali karaa marka maxay qaateen fadhi arbeed ana rabay inaan si hadda weydiisan lahayn fadhi arbeed banaanka iska dhigo qashin ah oo waqti aan ku tuur aan waay ayay rabaan inay qaataan haafa ka qaateen walaashay isoo toosay seefta aan gashay marka aniga nin gaawanahay nin garseeftan way dheertahay laga arkay ragii marka waa ka daba orday rag waa soo laabteen anoo hoos taagan soo ekaan dhahayo way soo laabtay ayagoo 3 mooto saaran 3 ayagoo mid soo marka arkay ayaa ragga daba orday seefta la soo bax marka nasiib ilaahay wuxuu ku badbaadiyay inta seefta soo jiiday ayaa waqti u qaadatay raggii saasta u dhahay oo caynay qorto gadaal ya mootada wada ordaya diin skurayo de go'so wadi oo kalib huuri moogta la ilaahay amarkiis jaraajada ka dulboodan jaraajada markii ka dulboodan ana waa ka dulbooday seefta aga dhacday marka sodohda iyo ordaysa ay timid sodohda waxaan daawanaysa ay xasuustaa waagaas sodohda ordaysa hooyo way isku oysay marka hooyo maxay tir soo laaw naga daawaxan dhalinyaradan waa soo xaroonay waxa dhacaya marka 40 carab ah ayaa balkoonka imaatay 5 10 20 la soo socdo ana kaliya rag amar guriga seefta la soo baxay dadka wix dhan kana wacay TV moon wax soo jeedo male wax soo jeedo male waxa sameey male ilaah amarkii maxuu gal wiil saaxiibka cilmi la dhaw oo xaaskiisa u dhalayso Mareykanka dab asay qabtaa war halo cilmi nasiib badni aan dhaniyo soo jeeday war xilli maxaa ka soo baxaysaa war aad maxaa ka soo jeedo waqtiyan inuu gabadha ay foolna soo daay Mareykanka joogtay saddex soo jeedo maxaa jiro war soo carra dhaniyo dagaal jire guriga lagu soo weerar rabay ninka iimaad marka seef kala u dhiyo marka waqti qanida samuqay 3 xabo waa mogtaa mid mindi ay 2 seef oo mid dheer mid gaab mogtaa mid tii gaabna u dhiyo marka asag ana tii dheer qabsaday asna dheer laf loo mogta ya marka muxuu seef maru dhaani seef martumi hayna kan balkoonka istaagna marka waa iimaadeen marka markii iimaadeen dhalinyarada marka kaaga dalanta maxaa waaye rag ficiga aqaan hal qof ku jiro male waa teenager 14 years 15 years ila 17 18 ma garatay oo hadda soo kacay oo wada libaxi oo wax arkeenin maxaa dhahay kii gurigeyga soo gala dhaam isku daya caluusha banaanka taalaada ya midax soo dhax marka wuxuu yiri on school masbaano maxaa dhaw yiri shakan ku bilaawtay war hadda isbitaalkii ma aan dhahay cunugira ay dhashay ma garatay guriga maxaa imaano anoo guriga dhaxtaa la dhacayaan dhahay maxaa sameeyna daaday ya guriga lagu soo gala ha war xaq awlaad yirana disho anaga dhan ya runtii soo yiri qof taawan kara ma leh ya qofkii isku dayana caloosha dhax gali sida ilaah amarkii kun jeena booliska waxna baab aan ku imaanaya ilaah amarkii aad markii hoydeen markay dhalinyarada naga tageen booliska imaado booliska waxna iska taga sheeko waa dhamaatay
sidaas oo aad marka dhalinyaro wasbaranay aad magaaladeedii waan sii jooga sanad kadib ma sanadta ma dhowr bilood kadib marka xaaskii ana asfar fariisanay alxamdulilah biha shuura wax la dhaho beelaada ma garata sabti walba tashanaa maxaa ka tashanaa wiigana soo dhaafay waxa aan wanaag iyo xumaato aan soo marnay iyo isbedel wiiga soo socdo wixii xumaatada aad waxa ka bedel lahayn wixii fiican wax ugu soo kordhin lahayn so waa wada tashatiin sabti kasta exactly marka waan qiirooday marka maalintaas ya oo fik fat ilan baa iga timid maxaan ku dhahay macaan haddaan maanta Denmarkna laga saaro ya cunuga maanta inta ku dhashay ana Soomaaliya ma aqaan adna Soomaaliya ma taqaanid haddii maanta cunuga ay anaga adina la tuuro oo laga tuuro Soomaaliya yaa talno macna maxaa weeyaan wax noo qabanaya ma garata lacag ma haysano wax ma haysano kan ma haysano cida ka dhalatana ma yada cid ka dhalka ma xisaabtami kartid maya waxa tirida dada qalay iyo dadkii ku caawinayaan waa run laakiin marka yani bil lagu dhaho qof adiga ku biila male ma garata qof ku biila male Soomaaliya saas isma bisha ku Yurub joob sax biila marka wax dhacay marka maxaa waaye gabadhii ani waa tashanay maxaa ku tashanay maxaa ku dhahay iskaad guriga aan deganaa 9,000 xoogaa waa ma garatay lacagta qaadanna ma badno ma garatay guriga aan fasaxno timajaraha aan iibino aan guurno ta u guurnaa aan u guurnaa meel kirada 5,000 ay tahay saan nolosha maxaa ga bedelno hay'atir maxaa barnaamijka ay yahay barnaamijka maxaa dhahay in fm o evelgan spa fm huna tuusna dhahay ma garatay af Soomaali ku in 5 sano gudaheeda inaan aan 5,000 oo 500,000 oo kron ilan aan meel dhigtaan rabaan aan dhigano sababta meel u dhiganaysidna maxaa back up yani hadii wax nagu dhacan ma naqaan ha dib haduu yimaado wadanka laga saaro wixii dhici karta ilaah baa ma garatay marka saas daraadeeda maxaan rabaa marka ilan aan meel oo raqiis aan u guurno laakiin maxaa kugu abuuray in asaas u fikirtid cunuga yar dhashay okay cunuga yar dhashay oo mas'uulka ka ahay oo anigu abtirsada ayaa ka walwalsanaa ma garatay ilan wiilkaaga waa ila dhale ma garatay qofkan uma geengid ibil ma dhigirtid magtahay cunugaas ay ugu dhaliyay marka cabsi marka hayay tiri guri raasana qanas ka raasana marka ka raasana marka maxaa dhahay yablig tibay yabligkan faqamada ma garatay marka maxaa dhahay bama in odan sadegno reerkaaga joogo waxa joogo adiga oo aan fiqihda heli kara adna reerka ku caawin karo aniga ka udbi kalma badan tiyaas ku raacna marka sida odan isku soo degnaa okay marka odins marka imaanaysa shaqo ma haysanin waxbana ma haysanin every head okay marka goormay ku abuuratay marka ina meeshan furatid oo noqotid nin ganacsade horta waxa dhacday waxyaalo badan jira soo maray inta odins adeegna laga hadli karin oo dhibaato badan oo keentay shaqo la'aanta lacag la'aanta maxaa ileen marka ohus deganeed iyo qanas iyo shaqo dhaqsaa ku heli jirtay marka odins imaatay maxaa keenay marka inaad shaqo helin ma aqaan inkastoo meel kasta shaqo aan wax aan geeyo waraaqa aan geeyo wax kasta aan geeyo oo dadka la hadlay yani diwalid safar famaay ma garatay maxaa keenay shaqooyinkan aqaan ma doonan McDonald's waan aqaan ma doonan post Denmark waan aqaan ma doonan Giles waan aqaan ma doonan ma fahamtay maxaa rabtay marka ani shaqo baan rabay oo kuwaas ahayn ma go'aansan hadda maqaxyaan tagay meel walba tagay ma garatay maxay ku ileen waxa jiro waxa la dadka Soomaalida inay shaqeystaan ma rabaan magaaladan dad badan degan ceeri qaataan bla 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 laakiin markii dadka la weydiiyo waxay dhahan shaqo waa doonanaa laakiin ma helno adigana way kugu dhacday marka maxay kula tahay in shaqo la'aantan udins ay ka jirto maxaa keenay ileen meelihii kale waa ka heli jirtay waxa keenay maxaa mataqaana koo horta waa magaalo yar ma garatay laba shaqooyinka magaalooyinka oo kala degan tahay network lagu helaa network da ku heli weysadna ma taqaana maxaa lagu helaa shaqada in aad dhalisid waa aad shaqo kansatid ma garat in aad shaqo abuurtaa waa marka anigana hadii dacad u hadlo marka laba meel ama saddex meel oo kale oo reject aan ka helay ma isdibre ma garatay wax kale ma sii raadin sababta nadaleega nacbahay ma garatay ina dadka may dhahan mayda nacbahay ma fahamtay ya qof walba may ma awoodo ku hayo qofka u dhahayo aan nacbahay ma garatay marka saasay tahayna shaqadii marka aniga in isdibre noqotay waxa isku dibrana waxa waaye maalin kamid ah maxay ku dhacday sheekada kul horeysa la soo xasuusto maxay ku dhacday nin kale raah Scannable aan soo raacay timshar buu baahnaa asaan ku sheegay marka aniga qabiilada Soomaalida oo haween oo waxyaalaha necba ku jira marka shaqada timshar inta kuma bilaawi karin laakiin se ku bilaabmi doonta ku sheegay waxa dhaca Scannable aan soo raacay Scannable marka soo raacay timjaryaal badan oo tagay kan
wuxuu u baahan yahay sakiinta wax qofku isticmaalo u baahan yahay ma garatay way garan waayeen kan markuu imaado inta ku yaala ayuu ayagana dhahan ma naqaano ayaan dhahay aniga marka sakiinta ma haysiin markaas dhahan ha ma garatay markaas kadho iskaanba bro anaa ku jaraan dhah ya ma ii jari karaa yiri marka shaaku yiri carabta marka hada ma jari karaa ha ku jarabal yani ma xir waa in ugu xumeeyaan marka ilaan wax aqoon marka ninka waan u jaraa 5 sano inuu hoos 5 sano ma sanad ka yar ku soo shaqeynaa marka waxa dhacays ma oga laakiin ay ma garata marka waxa dhacays maxaa waaye insha Allah ya insha Allah waxa dhacays marka maxaa waaye ma garatay in aan iskaana boo aan u jaro marka u dhameeyana ka bixi waayo waxa la dhahaa macalin markaas ogaa carabiga macalin ta yani qatarata oo kale ma garatay raggi marka maxay bilaawtay marka meesha waa ka tagay raggi maxay bilaawtay inaan 6 bilood iraadiyaan 6 bilood ay rabaan timajarka inaan dhahan kaal nala shaqeyso kuwa carabta anigana marka maxaan ku jiraa hasla ku jiraa meelaan wax karaato meel baan ku jiraa anoo tii ku jira ayaa maxay ugu dhacday marka maalin kamid ah maalin jimco ah ayaa nin Soomaali aan ku dhahay walaal macaan adeega ka rabaa hooyada imaanayso oo Ramadaan waa marti iyo ma garatay adeega oo baan hilib waxaas hayuu dhahay xaaskii aan ka haystay marka meesha aan tagay ayaa marka ninkii adeeg soo qaatay ayuu ugu daadiyay marka ma garatay nin Soomaali weeyaan ma garatay marka magaaladan waan u tagay maxaan dhahay walaal macaan salaad jimcaha soo baxna magtaa maxaan adeegan ka soo doonaa waana caadi Soomaali khidid wax la isku qoraa marka ma aqaan wax isku bedelay marka meesha tagay xaaska haysta adeeg soo qaatay ayuu iga diiday ma garatay markii igu diiday aad xumaad marka xaaska gaari galaan dhahay asal la hadlay uu ku si adkaystay yani maxsan igu sameeyay bro ma garatay maxsan igu sameeyay ugu sii jeestay marka askayga tagay markaas kaga tagay gaarigan gale aan isku ooyay marka ilin waad qanatan rada ka imaatay ilin marka ninka ciilo oo in fiqfiq ma ilin ayaa iga timid oo nijab ah xaaska ilinta iga tirtay maxay tir isku iga iska diil no meel yani hada wax nijab isku dhacay waa caadi hor oo soconayna soo baxay maxaan u maad marka wiilkan ka shaqeyn jiray bazaarka waxaan jiray dukaan ku lahayn raxmarka ahayn baazia u maad ano ilinta igu taalo ciilayo wala bag mujaa بس ما حكوا عنيو اوكي متى ما حكوا برو marka inta ay ololays intaan gudaha ma taqana biyo iga buux ma garatay biyo marka ilina noqonaa ma garatay ani dhan waa cunaa xanaaq hada braasas ali soo galaa bro ma fahant lacagna ma hay adiga u baahana gobnimo dhahay bro gobnimo ma fahant qaado yir adeegaaga adeegan qaatay reerkan soo dhaweeyay waan isgiijiyay habeenka seexan waay habeenka marka seexan waaye aan arood soo toosay oo waqti laga soo wareer reerka naga tageen waxa naga tageen ay hadda xaaskii video iga haysa video iga duubtay ay haysa ana ogen bibagna dagana maxaa fiiri wax la yiraahdo stock aan fiiri ma garat ya dhinac any kind investment aan fiiri meel walba lacag laga heli karo fudud waa fiiri youtube kan galay maxaa fiirina yani sida oo exchange loo galo maxaa fiirina sida oo apple lacagta loo gashto maxaa fiirinay sida Disney ama waxyaalaha hadda soo baxay dhan oo waagas oo hadlay oo loo hadalhayay si lacag loo gashan karo any kind of investment aan fiirinay adi marka waxa sameynaysid ma waxa ka fikiraysaa lacag mas waxa ka fikiraysaa wax oo business oo ka shaqeysatid maxaa ka fikiraya xaaskayga maxaa ka balan qaaday dib dambe nolosha inta loo nahay in amaha dambe qof aan wadin laakiin marka aad dhehaysid waxa raadinaya stock iyo waxa firfiirinaysid goolkaaga wuxuu ahaa miya ina lacag heshid mase ina shaqo heshid may goolkeena lacag helo ma garatay goolkayga muxuu ahaa nin maxaan ahaa la nijabiyay oo xaaskiisa hortiisa wax loogu diiday oo nijab ku dhacay oo ciil haya ma garatay marka waxa rabo maxaa waaye xaaskii inay tuso I'm being worthy ma fahantay yani ila ayada u qalmo ma garatay aan nin reer bilan karo ma fahantay ciilka i qabtay ya ayaa marka maxay igu kliftay inaan solution aan raadiyo solutionka marka muxuu noqday ya inaan noqdo isku filan marka sanin isku filan ku noqon kara markaas online aan galay any kind of way to survival aan baaray ma fahantay ya ama ha ahaato guri yar qol yar iibso oo dakre ama ha aad kan ama guri soo kareeso qofka ka sii kare ama cunto ka kare masaajidka waan sameeyay ayadana ama cunto ka kare muqtamarada waan sameeyay ayadana any solution I can come up with waan sameeyay ma garatay on reerkay ku dubari karo
waxaan Soomaalida qaataan waan qaadan jiray ma garatay laakiin iskuma dhiibin in aan fariisto oo taas aan ugu filan tahay ma garatay marka saas daraaddeed ficilo badan ay ugu dhashay ficilo ugu dhashay marka maxaa waaye raggan ay arkeen marka arabtan ay arkeen waxaan nin wax biloon ku raadinayna kaale maxartiin tima jare nin tima jar ma noqonayay laakiin maxaa u baahantiin waa ina caabi ama nabar sakinta loo isticmaalata okay sakinta loo isticmaalo ani bar kala aan dhahay man xogaan caabi wax ma inaan dhahay marka imaadata jiri marka imaan waa marka doon waa imaan jirin nin xor ha ma garas France ka haysta marka iska furin jiro iska imaan jiray si ku shaqeyn jiray marka maxaan arkay lacagtii aan arkay dhalinyarada kalsoonida arkay dhalinyaro badan igula talasa arkay ma garatay hadda ninka Mr. National Federation waagas uu ila joogay ma garatay dhalinyaro marka igula taliyeen hooyan waxa marka hooyada waxa hada hooyo walaalada ima biilayaan ama reerka ima biilayaan ma garatay qabiilka dadkan ehelka dadka la dhahayo ima biilayaan waxa ka cabsanaysaa in shaqadan hadaa gashid oo lagu wacay hadhow timi ama waalidka ka xumaadaan ina ka xumaadaan ani dadka qabiilka dhanka ma fikiraya maxaa ka fikiraya waalidkayga dadka sokeeye oo aniga oo ehelkayga inaan iga xumaadaan ma garatay ilaa waxa dhaqan soo jireen waa ma garatay marka hooyaday maxay dhahdaa hooyo macaan waa lacagta ugu xalaalsan Europe ma garatay gal oo kugu duceey ma garatay ilaa hadda waxaan aaminsan waxa durdur la noqdo ducada hooyada tahay taas ay aaminsan ma garatay waxaan istaas midka waxa iimaana ma taqaana ilaa hadda maxaan aaminsanahay ducadii hooyada tahay ma aaminsan shaqada aan ila qabtana tahay ma garatay ya ducada maamooyinka waa muhiim ogta marka hooyada markay igu duceysay isla markii lacag ma haysan ogow ya 5,000 wax sa haystay lacag yar isku soo urursaday waxaan u tagay ninka centerka leh muxuu igu dhahay tamajar rabaan inaan ka furto meesha meel weyn rabaa markaas uu koo horta tamajar ma furi kartid laba tamajar jira ma garatay marka tamajar ma furi kartid tamajar ma furi karimi maxaa waay sababta laba jiro waxaan ku sheegan dhahay 1700 Soomaali magaalada deganaa dhahay Afrikaanta kale ku daraan dhahay oo tir aan ka hayn ma garatay waagas 1700 deganaa mogta tamajar ma lahaan dhahay sababta ilaa marka Soomaalida tamajar looma furi karo bal musuto ishaga dhahay xafidada waatan ja bis kontrakten eller jag vet inte sidan där det ska vara kontorfrisör det vi ska kalla en afrofrisör vad säger du till det har ju där det är en genial idé det är nog afrofrisör här och där wallahi marka afro barbar laga dhigay ma garatay kontrakt marka ugu qoran hadda aniga friseur caadi uma qoran baaba shaba ay ugu qoran tahay ma garatay oo wali dadka madow loogu talgalay ma garatay maxaan u sii raaciyay marka waad ogta meesha dermaan ku noolahay qof cad ma diidi karo ay nooc soo gali kara ya marka cusurnimo ilan bilaa ma ahan dhahay qof walba imaan u jaraya ileen exactly ma garatay marka waa ninkii xudhay marka waxaan rabaa inaan ogaado ileen dad badan waxay jiraan oo ku fikiraan inay ganacsado noqdaan inay shirkado furtaan magaaladan Odense maxay ahayd meelo badan oo dadka laga caawiyaa jira hadii rabaan inay ganacsado noqdaan meelahaas wax badan oo soo isticmaalsan ma jiraan dad oo lagu kula sameeyay processka ma jiraan dad oo la tashi jirta ma jiraan intaada fikradan sameyn may so adi waxa dhan adi keligay meesha saar rabaa inta aniga keliga shaqada ku sheegay keligay waa ninka markuu waraaqda isiiyay contract aan saxday diblo abisan kale marka dukugaar huuska 5 sano ka marka meesha furay laba muraayib say ahayd oo tukaan waxa ku siiyay dhar ah qaanada dhar koor war jireen ayaan intaan darbi ku dhajiyay sababta meel ka saara garan waay ina furfurno waa ka wahsaday ay naftirkeed aan ka dhigay qayuul TV da wax badan isbeddelay meeshan meel cad leeyahay exactly marka saas aan sameeyay aan ku shaqeysta sanad markay buuxsantay ya ayaa meesha inta xiray xaaska u yeeray darbigan guud arkaysa xaaska ay marsay darbiga muddo arkaysa ana mariyay ma garatay alaabtan arkaysa meesha ku dhagan ana ku dhajiyay ma garatay ya qof honbaaga wax noo imaaday ama lacag aan gelin ma leh ma garatay oo kuraasta iyo mashiinada ka aan ma garatay shaqada dhan aniga xaaskayga oo 9 bilood ah aan sameeyna ma garatay laakiin meelahan hadda ileen kumuunaha meelo badan oo lacag geliya si dadku u caawiyaan faqadnings plan u sameeyaan waxaas iskaadka iyo momsiga isuga meelahaas dhan ma aadin marka sababta u aadin ma ogeen miya mase ma u baahneen waxbana waan ogaa laakiin waxaan ogaa maxaa weeyaan hadii qof aad ku xisaabtantid waqtiga arto waxa kugu dhamaanaya ma garatay marka saas daraadeed gaaladan waxay yaqaanaa process ma taqaana hadda u tagtid program lagu sameeyay dhaho welcome to next week ma garatay next week marka hadana marka wax laga dhageysto way soo baari hadana waxa ku baari waqti ka qaadan ma garatay wax ahayn waqti dheer ka dhigaan sababta adiga kelima qofka caawinaya ma garatay saas daraadeed marka aniga ma wareeminba
أنا كلامنا سان كوشة أو كالأوسنا نفرح بانها وحن واحد تان وأوجه سيبي أنا بروح يا وان أوجه ما قرت ولي قف إجماع عاون ما قرت داير ما مش وفد أدوك ما تشركت لك فرطوة ما قرت أدوك وفد في تيم موجودة الوصينا سيبي أنا بقى مركا عاون وبهنم بقى أوكي meeshan inaa furataa rabtay ninkii meeshan lahaaya u tagtay lacag ma haysatid waxbana ma haysatid meelna inaa furataa rabtaa sii ku dhacday marka ragnimo saaxib fahanliga jira mogtahay dad badan ka faa'iideysanaya fahanliga jira mogtahay in horta weliga waxa la yiraahdo fahanlinka ama wada hadalka oo markaad qof kale ganacsanaysaan ceeb ma aha in wada hadashaan ninka markuu ii ogolaatay majaraha aan ku dhamarka dib kala jiraan dhahay dib kala jiraan dhahay dibka wuxuu yaqaan dibka jira maxaa waay inuu magaalada ku cusbax shaqana ma helin lacagna ma hayi intaan watana meesha raan ku dhax amiro maxaa xala bamina rubiri dikadag pass ninka waxa la isla soo dhisay ninka muxuu lahayd dubusta ma helaysa wax bahelaysa mugtaa arga muxuu dhahay diminaru ig iyo waan dhahay sanad حقا بحين كرتا انت صبحين كرا عندها مرك لا غير شيء مرك اساس كي امسيو ان وليغا مركاد قف لا غورتميس ابر لما دخو قف ابر wax kuusina male hada ma aqshan kun ma aqaan meesh 10 kun ma aqaan wax xasaasiye ma garata maxaa dhahay marka waxaan u baahanahay 3 bilood ya oo kiro oo aad u yar ah ee maxaa u baahanahay 3 bilood dibusna iga sugtid ma garata suurta gal noqon kartaa muxuu yiri kartidaan ka helo yiri والله فيريا كرتسان كهلو يري سأقول لك كهلو يري هور صعد كان كهلو يري وحده الكمجري تاس بس كو ويلا فرع ماشي ما قرت ويفرع بس كو يدح على واحد انت كسمه يري صدنت كيلا بس كطور عم استعمال ماشي كان دار لو قد هاجر كور بتصغي هاجر ما قرت marka aniga waxaan tuuro male walaalahay waa iska isticmaal karo markii aan meesha bedel doonana marka asaasaan ku bedelayo laakiin waxaana sameysay wax oo macquul ahaan waayo firi marka iskoolka businesska dhiga jirnay waxaana leeyahay marka meel ina furitiin rabtiin waa ina horta soo ogaatiin dadka u baahan oo hadhooti research sameysid ka bacdi maxay ahayd lacagtii fiirisid meeqa ka soo galay meeqa ka baxayo laakiin waxa kaliyo sameeyay u jeedo waxa waa markii wada hadalku u imaaday meeshaasna wada ka hor يعني waan ku sheegay carabka inuu soo shaqeeyay oo practice iyo wax yar uu soo shaqeeyay oo Soomaali badan aan wada hadalnay ee magaalada in deegaanka 1700 Soomaali waan soo ogaaday that means 1700 Soomaali magaalada deegan tahay oo ninka u sheegay gaajada ogaa marka ma garatay marka calculation kan isku dhufsaday ma garatay ya waxa lagu ku sadaan sameeyay aniga full time aan ka shaqeeyo ina ugu soo galayso 45 kun u yaraan waa ku xisaabtay ma garatay oo kirada inta taana ku xisaabtay ma garatay waxaana ka dhaadhicisayo ina ha tusugna awar we look lost down we go up out down double by alarm is not so it's losses laakiin waxa ka hel waxa waa nin dhan oo meel ijaaraya waxa ka dhaadhicisay inuu meesha lacag laan ku sii illa hadda uga dambeeya laakiin dadsi adi ma ka cabsaneen miya ma xashooneen miya marka ninka u tagay soo dheesay niyo waxa aan isla dhisayna waxna ma hay illa hadda la yaaban yahay illa hadda sanadka dhan oo soo canbixiyay wallahi baan kuma sheegay sanadka dhan oo soo canbixiyay marka illa hadda u yaabeen hada ma xataa leeyahay wallahi okay inta meeqa sana haysata meeshan adi hadda exactly 5 years shanta sano Soomaalida si ku arkayeen ileen bilaag waxa ka ila kama cabsanin laakiin waxa ka walwalsaneediyo dadka inay shaqadan shaqo xun u arkaan iyo waxaas ma la kulantay lama kulmin positive la kulmay ya horta in adduunka waa jira qof markuu ku yimaado hadal kale ku yimaado markuu ka tago ku xanta ma garatay marka wax laga ma sheegay marka intaan arkay wax horta wax ka sheega ma leh laakiin boqolkiiba waa jirtaa boqolaal xamanaysa ilaa hadda xamanaysa ma garatay laakiin noloshan Europe aan joognaa maanta ma garatay ma jiro qof oo timajar ka shaqeysana $100 saacad shaqeysanaya ma garatay ya marka sababta loo diiday marka dadku waa fahansan hadda maanta yani waan gaarnay 2019 heer maxaa gaarnay maanta ma sha Allah kan ogaaska maanta tinjar kara ma fahansan sababta qiimaha loo ogaaday qofka haduu shaqo oo fiican oo xalaal uu sameysanayo wax laga xishoodo ma aha laakiin waxa rabay inaa ogaado xataa waxa la yiri markii shaqo cusub ama ganacsi cusub la furanayo 3 sano ugu horeyso waa markii ugu dhib badan tahay ileen shirkadooyinka badankood waxa la yiri half-kooda yani 3 sano kadib way xiraan marka 3 sano ugu horeyso maxaa la soo kulantay والله بينكم الشيء 3 سنين ugu horeysa 3 sano ugu macaaneed waay
ugu macaaneed ya kow wiil Soomaali ma jaraa hor loo markin labo magaalo ku cusbaa saddex shaqadan qatar ku ahaa afar nin hadal badanay ma garatay marka dadka horta wallahi baa kuma sheegay qofka hadli karana ma taqaana waligiis wada u fududah ma garasooda qof walba isfahmi kartid ha marka saas daraadeed ayaa meeshii shaqadu isi macaanaato isi fududaatay wax kullu dhib badanna wanaag mo ilaa had xumaata lama kulmo okay waxa jiro adiga ogaa xataa iyo barbershop kan kaliya ma aha waxa ku jirtid wax kala ku jirta ha marka waxa leeyahay qof kaligiis markuu uu business leeyahay iyo way adag tahay inuu waqti familkiisa u helo iyo caruurtiisa iyo saaxiibadiisa iyo maxaa ka jiro waxaas horta waa run walaal macaan hadda ka hor nin Facebook la dhaho oo ganacsada Danish ah oo wadanka ugu caansan ayaa muxuu yiri inta advaxer noqon ya wana laf dhabartaada heshiis la tahay xaaskaaga ma garatay yani bawmanku ka wada ma garatay hadii kale maxaa dhacaysa inaan xaaska adig kala tagtaan ama business out burburo marka ani saas daraadeed marka familkeyga kow ka bilow xaaskeyga intaan waxa dhan bilaabin ka hor ana ayada maxaa kala saxiixanay contract oo ah inaan asgarab soconno iscaawinno heer gaarno ma garatay saas daraadeed marka ani markaa walwalsanahay ayadana waa walwalsanta u dejinaysaa marka faraxsanna waa faraxsantahay ma garatay marka seexan waa ma seexan karto ma garatay marka ilaa hadda maanta ilaa African business ka bilaabo ma garatay marka waa walwalsantahay stresska ila qabtaa wax walba ila qabtaa marka ayada bohola ah ayada xisaabiga ah qabiisanta wax loo gudbinin aan waqti kuma hayo rasiidada ku aruuriyo oo kirooyin guriga ku aruuriyo oo lagu habeeyo ma haye ayada marka secretary way tahay bohola tahay wax walba ayada ah ilmihiin ayada haysata ma garatay so business family waayo ku jawaaba marka saas daraadeed ayaa aniga marka alxamdulillah guriga lagama tago waxa laga tago maxaa waaye ilmihi maxay ogyihiin shaqo shaqo ku maqaya xaaska shaqadeeda la haysa hatta cunugeyga ugu yar reerka Yaxya la dhaha markaan guriga jiifto maanta fasax ahay baleewad waxay dhaaf goob abayd marka family wuxuu iska noqday avaxer familiar ya wax walbo aan taabtay ama aan dhaqaajiyay ama nid ugu jirto ogyihiin iyo waqti aan bilaaw doono mar qaarkood ma ku fakirtaaniyo aan waxaan rabi lahaay shaqo oo 2 saac subaxnimo la gelayo 4 saac subaxnimo afarta galabnimo laga baxay iyo inta business kan oo maanta dhan ilaa marka tahay qof ganacsi ah yani waqti fasax tahay ma jirto maanta dhan shirkadda ku fikiraysa maxaa cusub maxaa isbedelay marka wiliga ma ku fakirta inaad shaqo caadi heshid masasana ku faraxsantahay horta sana ugu faraxsanahay aad ugu faraxsanahay ani horta shaqada caadi waa nacay ma garatay shaqada caadi waa nacay mana ku laawanay wiligeena maro ma garatay saacada doonta ahaato ma garatay laakiin dad ba ilaahu abuur shaqooyin noocaas laakiin ani mihi aniga maxaa ku noolahay wax la yiraahdo way of life ee shaqadeeda noqotay shaqadeeda waa nolosheeda ma garatay hadda 3 bilood aan maqnaa ramadaanka waa maqnaa soo ciid aruta la ciiday haddana waa laabtay Afrika aad ma garatay Afrika hadda wax software wax qabta sheeko kale marka la ku sheegana haddana waa soo laabtay intaan imaaday inta waxaan u imaaday maxaa waaye fiiri uma baahna inta joogo laakiin waxaan u joogaa maxay ii tahay refreshment ii tahay سجلو أكل إيه ذكر هذا كله كده جست أيها كده جست فرحة إيه تمام قرأته مركب وانجع لها نولش عن كل نولها ستريس كأمد خاطر كمل ستريس كل شيء ممكن شيء أنت كبد هود وهاين كرتلين لكن أنا واحد جع لها ها واحد لا حتى يوقفك مركو سمينا وحو جعلي هاي شقة وما أركو تاس دي دافع من كلا أنتقبناه سكيب ما فهمت صادق نك رجع تقول أنتقبناه هاي ما هي يعني نسك هنفسيه بعليه بزنس ما بس ووحو جعلي هاي أيو بروي ما قرأت هذيك لما حوا واحد جعلنا اسكبر ويسيد you'll never succeed ma garad waliga meel kuma gaaraysid sidee u aragtaa marka dadka Soomaalida oo ganacsadayaasha Denmark hadda magaalada Odense kaliya fiirisid meeqa Soomaaliya meel furat hadda waa aragtay waa la batay awal saas lama aha jirin wax badan isbedelay marka hadda fiirisid Soomaalida oo shirkadooyinka ama dukaanni iyo waxa haysto ما حسده واركت هذه وحنا نكسنا واركها نورتا وآدي أدب أوفي هاي أورتا إن لسكو في النهضة في الناشان محكينا سائلنا ودك كده حموقتيد ما قلت أو أدنى سكو كل سوناتيد خير كان كو كل سونادان أو دك كان كلا أما دك كلا شقة هاي سنتا كوجو دايدان مركا وواحد وفر حواي أد مهم تنكلنا يوحد شقوينا سمينه ساري هذا حاسك سوق بيسي يوحسكوا ها دك دك دكان ماذا فر ولا له
xaasaskooda ilaan dumarka muslimiintu waa taqaanaa dhibay ku tahay inay shaqo helaan ayagoo qimaarkooda wataan so haddaa meel furitid dad kale oo Soomaaliya shaqo u sameynayso aad saas daraaddeed wax fiican weyn so laba wax inaan kala hadalnaa rabnaa marka intii ay dhamaanin waxay ku saabsan tahay horta marka ugu horeyso anaka media groupna lahaa marka waxa fiirnaa mar dadka Soomaalida oo mediaha imaado iyo oo Soomaalinimada matalayo adi film waxa sameysay oo maxaa la yiraahdaa Queen's Barbershop filmkaas sidoo ku imaaday iyo sidoo horta ku imaaday marka hore no filmkaas wuxuu ku imaaday naag liidada Miriam Telsko ayaa ayadoo Versmus iska dhex wareegayso oo shaqo kala haysa ayaa maxay aragtay wada hadalkayga dad baan meesha fadhiya oo maalin busy aragtay maxay aragtay sadaq ula hadlayo iyo ula macbiilayo iyo u shaqeynayo ay aragtay maxay dhahday character aad leedahay ma fahantay character aad leedahay rawa in aan ka sameeyo bilada siyaaya hayaan dhahay marka naagti marka bilada siyaaya sameysay marka maxay ku reysay maxay ku reysay the best bilada siyaaya Denmark iyo Scandinavia iyo Europe sawirradii adinkeeda ka qaaday okay shaqadii aan qabanay iyo sawirradii iyo san wuxuu akaamad qana maxay akaadeen New York look ma garatay Denmark waa taqana Africa iyo waxyaalahan ima taqana Afrika ma yaqaanaan waa wax ku cusub marka waa wax iibsan kara ma garatay saas daraadeed ayaa marka maxay sameysay sawirradii ayna ku guuleysatay 3 goor Denmark Scandinavia iyo Europe ma fahantay tiya marka maxaa keentay in maximum badan uu soo jiido marka dadafo yani maximum badan baa yimid okay marka journalada lagu arkay marka qof kula soo xiriireemaya marka haye waxa la soo xiriireen freelancer freelancer la soo xiriireen oo rabay film laga sameeyaan way yimaadeen profile yar iga sameysteen markay ku soo wada qanceen oo isoo wada laabteen marka hal qof u dhahay ma baanin waa rabnaa dhaheen oo soo wada laabteen hatta wallahi laba ilaa dadka niyad ku haya oo dad fiican ahayaan aan diiday kuwa kale waa isku ilaawayaga markaas soo dad badana ku imaadeen oo freelancer oo filmaan ka sameeyaan rabeen waa diiday sababaha u diiday mid dalbada marka mid ka doortay sababaha u diiday maxaa waaye chemistry ma jirin ya muhiim waa chemistry wax la dhaho waa muhiim laba kalsooni goonina ma jirin oo ah kuwan amay waxun iga sameeyaan aad jirtay ma garata saas daraaddeed u dooranin laakiin kuwa aan ku kalsoonaa ayaan doortay oo wali ayaga shaki iga jiray ayaga marka shaki iga jiray maxaa iimaatay marka naagta ayaga xukunta itimid ya tan ugu sareysa oo xukunta ayaa itimid iyo asagii filimka loo dhiibaayay mid cusub filimka loo dhiibay marka labada ii yimaadeen ayaa gooni ila shireen gooni markii ila shireen maxay iga ballan qaadeen su'aal walba aan qabo in ay iga jawaabaan su'aal walba aan qaban weydiiyay maxaa dhahay waxaan xumaatim igu soo celin kartaa aniga dadkay xumaatim ku soo celin kartaa formal oo gooni ma jiraan dhahay agenda gooni ah oo dan leedihiin ya goormu dhamaana sanadkaas hay'ad sanadka maxaa jiraan doorasho ma la isticmaali doona filimkayga oo ilaa idiga ma xukumi kartaan politicianka day waxan ku arkaan way isticmaali karaan hadalka ku isticmaalayaan maxay dhahan waxa dhan disconnect software iska ma gartay film fiican oo adiga iyo Versmus iyo dadkaaga bas ka hadlay mooyee oo adfalka spiles ama daay ila wanaag laga soo sheegay Maxamed laga soo sheegay balna ka qaadan ani sida u fikirays aad uga helay ileen dad waxa jiro oo yaani oo masaakiin ma laakiin dad oo dadka dhan wax fiican ka aaminsan oo qof kasto ku imaado iska dhahay so adi waxa sameysatay list sameystay waa wadiyo so kii kula fiicnaa qaatay hatta kii ila fiicnaana ku ugu sareeyo aan la shiray ma garatay sababta kan iimaan kaamarada iga duwayo asaga ma la filinka ma garatay kii filinka lahaa ayaan la hadlay oo lacag soo qaadana filinka lacag ku soo qaadanay aan la hadlay balanta ma ka bixi kartaa saaysa ma sameyn kartaa kontraata kala saxan aniga adiga iska dilta aan film hatta filinka Soomaaliya soo baxay way rabeen inaan ka qayb galo kan scamka fal scamka odineen samtay asagu waan diiday after kontraata ka damto waan diiday ma garatay sababta u diiday maxaa waaye LDH waa shaki ugu jira daraadeed aya naagta marka maxaa ka cadeystay shakiga la iga nadiifiso shakiga iga nadiifisay anigana si habli aan filmka ku duubay inkastoo laakiin 3 sano filmka la duubayo oo dagaalnay haade kan maxaa sameynaysaa war muxuu rabeen inta filmka ila papagoy soo dhaxgeliyaan had ariga soo galay maartay
mar sug dagaalkan ku bilaabo ragga wax kasta waan ka bedelay ya meesha kala gooni ka dhigreen wax gooni ka dhigreen waan ka diiday laba maxay rabaan papagoyalna keenaan ya waan ka diiday sugadi maxay dhahan meesha maxay soo dhigeen geedo soo dhigeen ma suluuska ma tan kala ka baqanay marka laakiin di wag das tang bil adnimo laakiin ma ka fikir ayaga laakiin aniga igu soo dhacday tu vidka fi Soomaali bi keen piqaaraqi mogta waxaan kale aan dhahay papagoy oo Soomaaliska faqsiya ma minay ya ma minay numa stop aan dhahay nahay ma qasin bi minay ya liig la baro minaan dhahay Milan god aan siyan ya liig la baro minaan dhahay das ka egben no papagoy mit butik san ariba iman baba harson tanga ya said god bad du ik hari med dem da kommer ta se film det kom till avsett på dem andra därför jag vill gärna med papagoy wallahi wax fiican waa ilaa dadka waa muhiim ina ku jirtid processka iyo waxa la sameeynaa war ya hadil tadi elt waxa la sameeynaa sidaas daraadeedna ariga ta mataqana aan ku dhameystiro ariga ariga marka maxay qaad 3 week in la liba baryo ariga please ma ujeedadoodu maxay ahayd ana ku sheegay wiilka yar Yunis ayaa muxuu dhahay Hargeysa tagay Hargeysa anoo jooga ayaa sa olof u fadhiyo yiri guriga maxaa iska soo dhaxmariyo ari fadhigi marka waxa laga dhigay ana u jarayo asaga inuu ku fikiro arigi ma garad uu ka baqdo ma garad marka digiya meaning the good thing ma garad waxun ma ahan dad xansigta oo ogolaaday hatta maxaa dhahay ma ogolaanayay ilaa hooyadiisa uu si go for it ma garad hooy maxay tiri hooyada saas lagu sharxay go for it muu jeeda saa ugu fikira marka foolxumada ka soo bixi doonto aan ka sii dagaalama taasana loo baahan yahay foolxumada ka sii baxda ka sii dagaalama marka ilaahay markii wixii dhan waxaan ugu dhamaadeen ma sha Allah alxamdulillah tan kale hatta fiiriyo filimka iyo wax dadka dhan way ku faraxsanaayeen sababtan waxa waayo energy-ga gelisid markii la sameeynayo filimka walaal hadda filimka sheegisa ku jirna ku sii dhameystira Q's Barbershop nolosha wax badan ka bedelay hadda 19 ilaa 20 Suudaan ka casuumana ya ان 20 دقيقه aan hadlo $100 wax ka badan qaata ma garatay foto aan qabto meel laga soo wicina male ma garatay en mid kalena in attentionka iyo wanaaga aan dadka ka soo helayo hadda ku akhriyo textile isoo qoray waan xisa qof walba daawado mataqana wuxuu soo qoray waan xisa ما شاء الله وتاسم حكسين صار يرجلين وقتها والله بما مبروك روح بالادب وبانت wax ku محمد قبو فاستعرف ها marka filimkii muxuu noqday obbakning marbacadeehan balanti qaadano ka soo baxay laakiin muxuu ku noqday ma taqaana marka ha wax kasta ma dhihin ma dhihin dida muskadaafo energy gelisay xooga gelisay sidaas daraadeedniyo waxa adir rabtay soo saartay wax hada laakiin ha dhihi la waxa dhici karto wax dhibaato plada noqon laha wala beekum sheegay plad aan noqon laha maanta hadal wax ma laga soo qor laha wallahi plad Soomaaliya lagu sirayo intii la dhaa wax fiican aadin sameeynayna oo hadhooti lagu ciyaaro soo la ka fiirsada dheena yani ka fiirsada yani media oo niimaad wax oo niimaad markasta ha dhihna oo hadhootinayo ina maxay ahayd kala hadli kartid waxa ogashahay iyo waxaad ogoleen bilawgiiba in laga hadli karo tan ugu dambeeyo inaan kala hadlo waxa waaye adii laasluga saaxiibaan noqoteen saaxiibaan caadi ma intii ka imaatay sheekadaas maxay ka damaaday in laasluga marbu magaalo soo booqan rabay horta laasluga dadka aqoonin waan maxay Bramster ku ku hanjir Bramster ku ku hanjir hadda in sanadkan u dhacay laakiin ninka 17 sano haysta Soomaan asaga ma haysan maxay xisbigiisa haystay laakiin asaga sano haystay adi 2009kii ma aqaani ilaa hadda haystay mar uu ka dhacay 2 sano iyo mar 4 sano adi marka ala kul xal an ninkii muxuu rabay dadka ka muuqda magaalada ama xaafadda Balsmuuse inuu u barto ma garatay marka saas daraadeed ayaaba intuu imaan ka hor muxuu soo sameeyay research oo ah yaa kala hadli kara xagga oo waji fiican leh ma garatay aan isku aksabari kara marka nin wal politician waa taqaan dan wata of course agenda oo marbacaan wata anigana nacasmihi adigana agenda ana agenda diyaarsaday agenda diyaarsaday marka waxa dhacday maxaa waaye ninkuu imaaday markuu imaaday waqtiga markii la gaaray ya PT-ga iimaad maxay saacad ku imaana isdiyaari kaamira xagga ku dhijitay live boom wax buu iduwas ad Facebook ku jirta ma garatay markuu iimaaday xayisiin bro asa xayisiin wata ma wuxuu leeyahay ajnabi soo booqday ma ajnabi soo booqday bal smuusan tagay qaasma booqday ma dhaasama finak aniga la suga iimaad إني عاقل قلة يا دينا حيسين قلة حيسين فعنا إنه قط ما قرت وإماضي مركو إماضي صفعنا وهذا اللي هذا الوناكسن أسوأ دارسني وحيالو كهذا نطبع هيد ما قرت مركو لابتنا ما شاء الله هذه
haddana 2 sano kadib ugu soo laabtay 2 sano kadib markii ugu soo laabtay markii Nairobi aan joogay ma garatay Nairobi aan joogaan dhahay ma joogi wadanka saas daraadeed wax macna ma la marka taariikhda imaanaysa bis taas marka la jabay bankum shay bro saas daraadeed had laas loo respect u helay marka hore politician oo interested ka shaqeynay lahayd ma goorma soo laabanaysa doorasho soo socoto inuu hataa inuu ahaanin laga yaabaa inuu madax noqon laga yaabaa marka taariikhda ku soo aadantaa maxaa aniga koosada ka imaana koosada ma labada bisha ku imaana dhahay marka maalin xad labada ma kood waxa ma xasuusto fiinta dhahay marka wuxuu dhahay politician ima soo doon karo qof ima soo doon karo qaas ma soo doon yiri ya xagas marka soo istaago di hamdas ka come hand ma yiri afghan snack ma ya oo sidii marka adiga gabadha soo hadlayso wataan secretary marka maxay tiri who's take the some fair then had lid ma minqa mid maraay marka soo marka u yimid si marka waxaan ku wada hadalnay yani waxyaalaha ugu kalifay su'aalaha ugu jidan u weydiiyay gooniya Cumberland marka uu weydiiyay hadan ugu la taliyay ilaan aan had ku sbaab shabo kale aan fidiyo iyo aabab hadda aan wado aan ka hadli karo beerta aabab hadda aan Afrika bilaa Yurub aan ka bilaa rabo oo asna dhahay kala yani investment raadso oo soo gali aniga madaxa ahay laakiin ma jeclaan la ilaan waxa wax kala qaban karo laakiin uu dira nin aad oo yani oo fircoon baa tahay waa si fiican daalmo dhan ka muuqatid oo idin isku ekaan saas marka aga hel marka ma garatay kadib inta soo firisanay sheeka politician aan wada hadalnay ma garatay nin kale nala socdo Venstra asna dantiis gooni u ka hadlayo oo hadal walba aan dhihi rabay oo daminayay ma garatay fikrad badan keena u sheeg waan soo wadnaa buu haya ma garatay fikrada sheeg waan soo wadnaa ku haya ma garatay anana xayawaami marka wali ma argaa wax soo wadaan ma garatay yaa magaalada waan deganahay adi taasna marka saas meesha ku dhamaatay laakiin ani waxaan jeclaaday marka wax sameynaysid ina ujeedo ka leedahay oo lagu isticmaalay hadda laaslugi iyo xisbigu ka socday oo xisbiyaasha magaaladan u fiican ma aha laakiin asagana ujeedo kaalaha adigana ujeedaa ka leeyahay adigana de ganacsada tahay qasab maaha ina dadka jacasha dhina la kulantid laakiin dad kale waa ina la kulmi kartaa in amtalen laakiin in lagu isticmaalo ani waxa ka soo horjeeda inna la isticmaalo oo shaqira ku sheega isticmaalka sakalena heerka gaartay shaqada ku sheega laaslugi dhowr jeer mar nidu iga sheegay mar nidu asxaabta iga sheegay marna wuxuu iga sheegay always lens move Venstra iga sheegay violet haweenkii oo ay ugu muhiimsan Denmark doorashada dhicisana ya haweenkii ka horeysay oo dibadka jiray asagi Poland isku ka dagaal hadalkayga magacayga yani intaas macnaheedu maxaa maanta aabkayga marka laan jigreenayo ya TV dan waa aqaanada kada ee qaajo lambarada waa haysta dadka soo weerasdan xayawaami business card ka soo qaatay ma garatay ya information kayga waa haysta Max marka waa qaaris Max for my son hadda ma ila si min app سأسمع بدري لكن مرمرك ما عبستي ميا قاسن إني لو استعماله يعني إني مركي ربان إني أدي جيس كاجا واقفهم سنة هاي اللي أدي بيزنس مان تهاي وحأوبها أنت هاي أمتيل وحأوبها أنت هاي ما جس وين جيس واقفهم سنة لكن مرمرك ما عبستي ميا إني استعماله هذا الأسلوب أنا سيدا أو أركو يعني نين لفهم كرواي ما أها سيدا كوكل إنجاز توي بيما ونين يعني معقولة واللي بقى صو سياسي واللي قال ما لكن نين معقولة واي لكن مرمر مستهدد يعني ودت كان أمي استعمالان أو وحن أني الربين واستعمال إن لين لا سلوكي حسب جيسيو والشموس إني الدمياني رواني يو ما أنتو لن وحي صو صارا يعني حسابوين كسابسن أجنبي إني دت حنيهين أديجين ويكسب بحنايا سو وحي ده روان دت كان إن ما في عنا مشكلة قاسم أو في أساس ما فكر مرمر وأنا كفكر هاي أرتا ما في عنتها سؤال لنا أول من أسكويدي سماها لنا أول باسكويدي أنا محل قناتي إن دنت ذاك جارو إنك سيصاد دونتين دنت إنك جارو وإلف عناتي كو وانا كجاري الحمد لله مد كلام حجرته بوليتيشن كلا بدنا إلى سو حريرة وان ديده تي في بدنا إلى سو حريرة وان ديده حد ugu dambayso arintan la dhaho naagtan maxaa Ingstойba oo rabta in next forman noqoto arinteeda TV ila soo xariirnay iimaad rabeen waan diiday marka aniga ilaah amarkii ya ilaah muxuu hadiyad ii siiyay waxa xun iyo shart ugu soo socoto in iska dhoori karo ma garatay strategy sameysana ma garatay laakiin tii ana danta ugu jirto oona hadda aan ogahay inaan dadka xanuun soo gaarsiineen aan isticmaali karo marka haddana waxaan isku soo laabanayna arinta politicianka oo aad laas ii weydiinaysid waa runta
een horta urura jiro mashan ma garatay een ururka hadda last league uu ka tirsan yahay waa ururka Soomaalida ugu jeclaan waa ugu beenistra waa ururka kali ah markasta ma taqaana shaqada markuu qabsado shaqa la wada helaya la dhijir ma garatay English Tobia markay timaado xumaaday ma garatay English Tobia markuu uu xumaado markii ilaa ani oo kale soo xiriirnaan dana noogu jirto Soomaali ahaan uu Soomaalida uu sheego wanaagooda ma garato ayadana Soomaali xumaata dhinac ka sheegayso marka waa inaan wanaag xumaata ka shaqeynaa marka hadii aan aamus lahayn oo Soomaali fiican la soo muujin lahayn oo Soomaali xubis la soo sheegi lahaa di dolidio exactly ma garatay had it means ma very good ela Soomaali like ins marka way fiicanta Soomaali walba wanaagsan oo noociga oo kala Denmark joogo uu wadan ka muuqdo ma garatay mar walba product cusub asmeeyay ama qaxay sameeyay ama tukaan sameeyay work soo gal u yar boomesterka magaalo cusub ma garatay oo keen meeshaada sad media aga muuqatid ma garatay sababta adiga media dagaal lagu hayaa media khiya lagu hayaa adna waa inaad bilaawdaa media khiya wax la dhaw ma garatay oo laakiin positive tidii hagoor marka like ani adi xataa waa ku fiirsaday adiga sida ajnabi kalimatay ajnabi waxa jiro oo la soo wato laakiin oo dadkooda yani wax lagu diro oo ayakana caan ku soo noqdaan dadkoodana adi laakiin marka interviewashada arkay adi waxaan waxa ujeedada ka leedahay dadkaagana wax xun kama dhawsid wax kama sheegin hadda inta raadiyo Denmark jirto waa laga wareystay markasta waxay isku dayeen inay xun ka hadlo dadkayga ah qaajo fiatusu hata ma garta door jaal isku dayo laba goor qaajo fiatusu saga ya marna waxa jooga new ball ya fadiyeen way isku day inay qalqaliyaan ya waxaan u sheegay horta koow aan dibadto aan ahayn diska review-dan ya dibadto aan ya fatensman ya private person ma fahamtay laakiin waxa u hadli karaan Soomaalida aniga oo kala ah oo dadka caadiga ah waa hadli karaan laakiin aad kulma mari karaan ma garto aad ujeedada u socda politician aad tahay ujeedada u socda ujeedada ani waa slogan marka maxaa isku dayay maxaa isku dayay meel walbo inaan akademiyo dabka ishadayaan sababta maxaa isku dabla ishadaan maxay aan la ishadaan ti figig again ti figig booliska ay imaade gacanta u siiyay qaajo fiit soo digood qayta god buu dhaqaas to god good فريدي وفايك مقطع محرم إنه دبل كان كنجمة دي بوسلي أنا نقول تيبس لا وحي سميين حتى أذيك وعين لا بقفوا أجنبي كسر جدا ويكوعين سو أذيكي أجنبي وحفي عنا شيء وسا أيكي كلام وحني شيء ويا مركو حال الربيو إني جيس كسوحر الوجود exactly وسكوت دين أو دقيقة حتى نك متكم من أسف كي ما هذا يقرأ فنية حاسكيس محمود قبل ده عروته بلس مصدق أصلا تناقة كده ما قرأت يعني فري مال الميز دقيقة هنا أي وحنا كشيء يعني ونروح إنه بربريو مر قاركون دتك إنه وإنا كلتها لأن حتى مركا انترفيو يل أهاد له يسد دتك العزومة حتى إنا كيف فكرت دواء يا الوعي هذه كل جمال الوعي مسدح قف وكلا الوعي سدح أسقف أنتي كالسعودان فري ما أنت صوحة أجد إني انترفيو جان أذيك وحير إني كتاتابتان ربين وين ربين بقى أنا مركا ماشي قالي أنا وحرت فاست في خمسة محل السعودية قبل الله لينا ثم مين محلها أجنتوا محل قال شقي ساميديا ما قرأت إنس إلى عليه ما قرأت كوي حنو ويجي على ساعة مركا اللي فات وأنا أنت جاي فات محو هون أحسن ما قرأت ما إن فات أو أنا نوحن مركا ويكفي كده محمد القاسم وقف عن ما قرأت لابد إن عبد الصومالي أما دين حماة المرة ما قرأت مركا مرة من السؤال نوع سؤال نوع ودين سا ويصدر سا نكتا لينو أخنا أنا ويصدر سا بليف إن أم بيسيه إياه يا هديجنا مركا وانقل جري مركا اسكا قال ما هنا تا واحد برنامج ليش او كفكر اكزاكتلي قف ايمانا waa oga ma gartay hadii kala hada new ball waan ogaa isaf ila iimaanayaan bisat xaq ma tabayo lehe eri xuna dhir qof xuna noqon laha ma gartay marka aniga waa isgiiji ma gartay ana niraga taa walgu cusub tag waxay ka qaadi karaan waxaad rabina ka jawaabtid ma ka jawaabaysid exact ma ku jawaabin laakiin uu dambeyntii wax rabay ina horta ku weydiiyo marka aad hadda qof Soomaaliya tahay business leedahay dad muhiim ah la kulantaa ma waxa aaminsan tahay ina adig kaliya ismatalaysid ma ina dadkaaga matalaysid walaal macaan su'aashaas waa su'aal muhiim ah su'aashaasna qof walba shakhsiyan asaga ku xiradaas u qaato ma garatay dad maxaa jira Soomaali badan oo maasha Allah heer gaarsan oo Soomaaliga mataleen oo dadna maxaa jira Soomaalida matalaya ana daan ku dhaho Soomaali waa matalaya aan ku sheego waay ma aha yani insbaagayga aan qaadanayo ma dhahay Soomaali baa mas'uul ka ah ma aha laakiin wadankan joogno waa wadan u baahanahay in Soomaali wajhi aan noqono ma gartay wadanka wadamada adduunka ugu horeeyo oo Soomaalida aad loo liidiyo ma fahamtay oo hoos loo dhigo marka way u baahan tahay Soomaalida qof difaaca ama qof oo dhaho
aniga aan Soomaaliya anigu Soomaali baan ahay farfiiqa jooji ma garatay oo u baahanahay saas daraad marka aniga LD positive yaal leewa aan wax oo wanaag dhan aan qabanayo dadkaagi u Soomaali waan ahay ma garatay Soomaaliyaan ahay ma garatay ha saas daraad marka aniga waxaan aaminsanahay in Soomaali aan matalo ma garat waxaan ka fikira maaha waa automatic waa caadi u dhacdaaba dadka maxaa dhahaysaa marka dhahayaan aniga Soomaalidin ma matali ani shakhsi ahay aniga la ismatalo dadkaasna horta Denmark joognaa wadan xor joognaa ma garatay ninkii dhahay ana Soomaali ma matala ana ismatalayo waa okay wuxuu ka cararayaa wax wanaagsan inuu wax xun uu sameeyana Soomaali lagu shabadeeyo ma garatay ya laakiin macquul ma tahay macquul way tahay bro sadaq waa kala duwanaa saa u kala dabacad duganahay oo qof asna u gal tusaal duwan maya qofkaas soo u fakiri kara taas kama wadi laakiin aniga haddaan dhaho Soomaalida ma matali kari mana matalay oo banaankaas wax ku sameeyo maxaa la dhahaa maxamed wax sameeyay ma la dhahaa mase in Soomaaliya wax sameeyay taas waa su'aal different ah maxamed taas ii weydii su'aashaas jawaabteeda maxaa waaye Soomaaliya ma tasha ama jeclaaw ama ha jeclaan Soomaaliya ma tasha adiga ama dheh Soomaaliya ma tala ama ma tala dheh laakiin maanta wax xun sameeysid ya Soomaaliya tahay maanta wax wanaagsan sameeysid diin shaa tahay ma garatay ya maanta ordaada tahay diin shaa tahay hadda boxer tahay diin shaa tahay laakiin maalintii akhminal aan noqotid Soomaaliya tahay marka maalintii aan wanaaga wadid maxamed Soomaalida u qarin waysa oo dhiway Soomaaliya ma tala ma Soomaaliya exactly so fil dhinac walba ay marka wayna taabanaysa ma garatay hadda maxaa rabaa in hadalkan raacsado maxaan soo wadaa program ma garatay oo ah invest wal qaasim ah ma garatay investiya qaasim ma taasna maxaa keenaysa nin maxaan ahay wax dahab haya ma garatay oo qiimo gal ah oo ma sha Allah la heli karin anigana maxaan ka cararahay ribooyinka ka cararahay bigigayga hadda 3 milyan haystaan ma garatay oo contact fiican asoo leenahay laakiin nin muslim baan ahay wiil Soomaali baan ahay marka kama qaadi karo lacag ma garatay fikrada maxaa haya aan dhowr sano ka soo shaqeynayay oo lacag iga dhamaatay oo wax la yiraahdo software waxay ku tusaya taleefanka soo qabo ma garatay marka maxaan rabaa inaan Soomaalidu aan u sheegno Oos Odense Copenhagen emailaha kalena ilaa ayagana casuumaan ma garatay waxa sameeyaa maxaa waaye nin walba opportunity inaan siiyo inuu software-ka aan wado uu investment ku sameesto oo dibadda ah iyo gudahaba ma garatay kan oo excuse bab shabna ninkii rabana investment ku sameeyno uu yimaado Denmark Sweden Norway magaca branch noqday ma garatay hadii lacag fiican la geliyo ma garatay oo 100 qof ama 50 qof lacag fiican laga soo aruuriyo la isku daro contract event la sameesto oo event lagu sameeyo concept ma fahamtay oo nin walba marka aan kireyno nin walba aan kireyno ma fahamtay marka aan kireyno nin walba faa'iido ka helo sanad walba adiga business ka soo barta outcast waa taqaan nin walba outcasts la siiyo waa a very genius idea ko Soomaalida magaceeda Denmark kor u qaadayna marka muhiim in la fahmo ma qaasiman wax laakiin ma sameeysid qaasimo waa fikrad fiican ma sameeysid workshop oo dhalinyaro casuumaysid taas rabaa ilaad sameeyo taasaan ka wadaa workshop maxaa rabaa inaan sameeyo inaan oostago oo fahamsiisid waxa ka wadid marka taas aan u baahan in hadda bilaabo marka saas waxaan il sheegay groupkaaga u sheegay Somas Media Group inaan idinkana taas la socotaan oo hatta aad ka sheekeysaan insha Allah annagana insha Allah wixii xayisiin oo ka caawi karnana waa ka caawinayna maalmaha sameeynis workshop yaashana waa ku iclaaminayna insha Allah app kana maxaa la dhahaa Stay Sharp app la dhahaa Stay Sharp ku qora meesha la dhaho Facebook oo follow Gray adina ku tusaya fiiriya did hel la nomdiyaad inaan barnaamijta boutique elaf qosoo ala iskunista ila heli kartid Mareykanka joog Afrika joog Denmark joog ka soo qaad had maxaa tagtay Nairobi dad ma taqaanid meel maxaa rabtaa lagu masaajeeyo inta laga jaro ma garatay did goori du troga din location asoo finaru elt och närmast och bästa städer i byn ma vet LDR kasi Kenya waxa dhan dukaamada aan contract la leeyahay ma garatay saas daraaddeed marka waa taabanaysa marka taawid dukaanka ku soo baxay hadda shirkadda Ashley's la dhaho iyo Google Ashley's waa branch Wayne waa she's billionaire naagta leh Nairobi huna min partner idaha ma garatay dukaamadeeda ku dhana ku jiro waa taabanaysa waxa taabanaysa shaqaalaha meesha ku jiro ma garatay qofka arta dooranaysa marka
qofka arid marka dooratid haddana maxaad dooranaysaa service-ka arid maxina rabtaa ma color ma rabtaa jaritaan ma rabtaa gar ma rabtaa wax ma rabtaa wax kasta arid dooran kartaa marka dooratid soo jeedid adaysa haddana inta qof aad lagu weydiinaa hal qof ah leedahay soo maaha haddana maxaa lagu weydiinayaa taariikhda laakiin qaasim fiiri waa u jeedaa waxa ku dhamay hal mar bas ma garatay taariikhda marka okay dhahdid haddana saacada ku weydiinaa marka hadda saacadana logad soo maaha marka wuxuu ku tusayaa only the available time bas kun detailed taqoodo oo ig anad ma baan saas daraadeed waa ka fiirin karsi sakay bil kun detailed waa oo ig anad oo wax adduunka dhan la garsiyo hadda maxaa rabaa January Denmark keena Denmark iyo Tyskland iyo England rabaa in aan keeno to the first 6 months to ma garatay kadib maxaa rabaa insha Allah investment marka helo in aan TV laakiin qaas waxa ka fikiray mataqaana waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo rabaan inay business sameystaan oo investor noqdaan ma group samaysatiin niyahow oo adi camal iyo dadka kale oo yani shirkado waaweyn leh oo la taliyaan yani hatta waxaan fikradahan camal ka dhaadhicisid iyo ma kula fiicnaa lahayn mas waqti uma haysid waxaas ma horta ko waqti uma hayi laba laakiin bish oo kala hal mar waqti oo heli kara ma garatay sida hadda dadka qaarkood oo kale waa la balama taariikhda ma joogta aha taariikhdaas waxaan afilscape aan qabsano wala dhigi kara laakiin Soomaaliya waxa ku xunaa bro this no bike mulid abtuuna ma qabsadaan hadda ma xasuusta shalato maxaan ku dhahay qamiis ma wada hadli karno sababta muda leeyahay ya muda leeyahay mis wadiis waa wiil ajnabi ah aan weligay arkin ya oo qabiisa ah ay la soo hadlay muxuu yiri qaasimow nin maxaa tahay full opportunities ina ka faa'iideysan oo wali wax kula galo ma ku iman kara ka waran Soomaalidana lagama yaabo in qofna ku imaado ku dhaw brother shan qof aan ahay intaana wadana maxaa sameyn karnaa maxaa isku darsan karnaa ma jirto marka saas daraad aad maxaa ku galayso dadkaaga muskil kulma rabaan inay meel isla gaartaan nido ku dhacay miyaad ina halkaas bagaarin fikirkaas oo 10 sano iyo 15 sano soo socota laga fikirayo ina annaka aan gaarin heerkaas oo xumaato ka ahayn laakiin dadkeena maanta iyo berille ku nool yihiin ma hadda waan sheegaynaa soo maaha aniga ya obn masa mulidaya ma gartay qofkii fikir wata ya akla ina caawiyo oo ya akla os ina si gudbiyata heer kuro ma garatay ko laba qofkii roo investment lacag haystana ya oo fikir haynina fikir aniga buuxa so dadku kula soo xiriiri karaan hadii fikrado waa maqluusin ninka fikir hayo soo xiriiri kara ninka lacag hayo soo xiriiri kara 2015 December 10keeda maxaa reeyay the best id mea Denmark array ma garatay xagga fikrada marka ma sha Allah 250 qof ayaan ka reeyay xagga fikrada ma garatay Denmark waa marka saas daradeed marka fikradii waan hayaa waa loo baahay marka loo baahay nin walba lacag iskala fadhiya 20 kuna aato 50 kuna aato 100 kuna aato hadda soo wada imaano waxa la yiri gacmo wada qabad wax ku qabtaan ma soo marda ya ilaahay og gacmo wada jiray wax ku qabtaan ma garatay marka Soomaaliya darano inaan aan sharaf isu yeelno oo hor mar aan gaarno anagu isu imaano aan is caawino oo dambeyntii marka haduu qof Soomaali uu rabo inuu shirkad furto ama business furto maxaa kula talin lahayd qofkaasna maxaa looga baahan yahay horta ko nin walbo markuu rabo inuu shirkad furto ko waana horta keenta fikirkii ma gartay adigoo fikir haynin shirkad iska furan kartid ma gartay mid kalena fikirka la iimaanaysa inuu yahay fikir loo baahan yahay oo fikir hor u jiro ma aha Soomaalidan nahay anaga copyright aan naqana maqaaxiya furnaysa maqaaxiya ka furnayna ma gartay dukaana furnaysa dukaan laga furnaa wax kale laga furnaa ma aha waxan maxaa fiican gaajid in buuxsa loo baahan ma gartay sababta dukaankii jiray hadii customerkiis la qaybsatid adiga wax fiican meel dukaanka wax fiican meel laakiin hadaa keento fikrad fiican oo cusub ya waa dhaqaaqaysa marka maxaa dhigi lahaa nin walbo fikir la imo oo adiga aad leedahay ko laba ku dhaqaaq habaqan sababta the best entrepreneurs adduunka maxaa waaye waa nin risk qaata ma gartay waana risk qaadan kartaa hadaa risk aan qaadanaynin waxa tahay mal ya lacag hadda sorry xogaa kritik ragii wax bartay ma gartay oo jaamacadda ka soo baxay over I think 2000 gang for igano sameyst ma gartay gal may kada tuqsi cable to kan waa aad u baqanaysin ma gartay hadda dugada u fiirsada ragga entrepreneur ka badnida wax barasho ma haystaan ragga u shaqeeya wax barasho haysta ma gartay do you know why sababta raggaas risk ay galeen 10 goor gacan meel madow god madow gacanta la galeen waa laga qaniinay god madow gacanta la gal waa laga qaniinay godkii ugu dambeeyay saddexaad ayuu dahab kala soo baxay wax fudud kuma imaada ma gartay marka waxa la rabaa risk in la qaato
saasa kula talina marka risk taker noqda qofkii rabo inuu investor noqdo ama business furto ha ka welin laakiin waana horta waxa sameeyay analysis wax la dhaho soo baar waxa in loo baahan yahay uu jirin oo meesha looga baahan yahay taas ugu muhiimsan waxaana jiray magaalooyinka la degan yahay dadku caawinayo haddaada aqoonin sidee loo fiiriyaa dadka oo tartanka kula jirtid iyo skatka iyo momsiga sidee loo bixiyaa waxa kumuunaha ka caawi karo kumuunaha kelima skatka ka caawi skatka ka caawi karo ha skat daftarkiisa muxuu hayaa koorsooyin jira koorsooyin waxa jira oo laga caawinayo momsiga si loo bixiyaa ma kabatel bisa loo bixiyaa ama sanada loo bixiyaa wax walba ku tababaraya ka caawinayaan maalinta tukaan furitid ama shirkad furitid skatka waa la assume kartaa koob kafee u soo dhig assume la hadal wax walba ku sheegayaan joogtan way ku caawinayaan hadda Facebook side leeyihiin oo su'aal walba weydiin kartaa lagu soo jawaabay okay qaasim aad iyo aad u mahadsantahay brother aad wax badan laga faa'iideystay insha Allah dad badan Soomaali badan way bilaabi doonaan inay business-aada camal u insha Allah wala baahan aad iyo aad u mahadsantahay brother insha Allah